نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فاللهم صل وسلم على أفضل الرسل وأكرم البشر سيد الأبرار محمد وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامتا كدب ولا ليال إلهي بمهضل جل وعلا إنه سامحي هبين كان إن نسكو إيمانو في هذه البقعة المباركة قريها إلهي كمدا سبحانه وتعالى مركا آن موضوعين إن شاء الله تعالى انت آننقذ قلين وحان جعلها هدو إلهي لهذا سبحانه وتعالى إنان إسحسوسينو دور الرماد وموضوعين نكحرا أرنت كوبادي عاوة أنبس حالي وحا أبلا متي دونيدا مسلم كا سند عصب لبا كن إيا أفر بقال إيا سيديد إيا لباتن هجردي مركي هجرودي نبيجيني يا حبيبكيني صلى الله عليه وسلم وقتها نوعاس أو كليتا وحال يراهدا تحولات زمنية هذا سيدا سيدعدو وحاجر وحلا يراهدو اسبدلو وقته ووتو maaha in ay dhacdooyinka ma hadlayno sanad baa dhamaaday 12 bilood inna ciddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran 12 bilood iyaan dhamaynay oo bogeyna galay sida marka ay dhacdo qofka muslimka waxa ku waajib ah inuu istaago oo uu isweydiiyo su'aalo aad u fara badan oo ay ka mid tahay taw ilaahay quraankiisa ku sheegay وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا إلهي وحوري سقع يا يالي هبين يدرار ازدبمريي خلفة يا كفا إذا سنيا قفك استاغيا قفك أي مري سماها قفك جوك سنيا لمن أراد أن يذكر روح الربائن وحصوصته وحسويديو ومدحي سبارو وقلبي سبارو لبي الطبن بلود باكو دافتي ما هكو بونا ني أورانيا دانسيا عياريا تومانيا بوادة تغيا هبينكا أوران وياريا كوي هيساها وقدم بيين وهيسان iswareerinaya iyaka oo rubama dhameeyay 20 sano 30 sano 40 sano 50 sano 60 sano isweydiineen limaada maxaad geysatay ilaahay agtiisa wama tuqaddimu li anfusikum min khayr tajiduhu 'inda Allah idan ruuxaas baa ina su'aasha isweydiino xadath baa dhacay sanad miilaadiya dhamaaday 20 habeen ka hor sanad hijriyana حالي بان فصحني ولا ليال سؤاشاسي ومهم أرنتاسي ويكون حرنتهي موضوعا كهدي دون إن شاء الله تعالى أرن لباد دونيدا آنو كنا واللهي عالم كآنو كنا واللهي وحالو قيبيي سيالو بدن وحالي ردادنا عهر مركا عالم كدبو يالا يا عالم كقبعي يا عالم كسيبتي هرمر قاري عالم كدب ويالا لح iyo kontonka dawladood ee muslimka ah oo annaka kamidna hay 1 milyan oo muslima caalamka bay ku jiraan ay kamid yihiin marka dhinaca markaanu ka eegno waa caalamkaasi aan oranayna caalamka dib u yaala amba aan naami la yiraahdo
amba athaalis saddexaad la yidhaahdo iyay ku jiraan marka laga reebo hal dowladeed oo Malaysia la yidhaahdo idan waxa weeye taasina waxaan uga jeedaa waxa weeye qaybistaa la qaybiyey dhacdooyinka soo dhacayay 100 ilaa 200 oo sano oo annaka iyo abayaasheen iyo awooyadeen bay u joogeen waxaan ka baxnay taariikhda bini aadanka haddaan muslim nahay meel la kaga jirno kuwa qorana ma nihin kuwa u fikirana ma nihin waxaan nahay kuwa lagu dulmatalo ee daawada ee ka sheekeeya dariiqa markaan soo socday imika markii salaada la tukaday ka baxoon guriga waraqada ka soo qaadanoo soo noqonaya waxaan arkay saddex oday oo gidaarka jooga oo isweydiinaya BBC-du maxay sheegtay maxaa maanta dhacay halkuu ku dambeeyay shariifkii iyo Cabdillaahi Yuusuf sidaas bay su'aashoodu ay u dhacaysay dariiqana way taagan yihiin waxay dunida ku hayaan ma jirta la khayr wala shar halkaas iska fadhiyaan masaakiin taas waxa weeyaan walaalayaal in dhacdooyinka boqolaalka sano soo dhacayay halkay ku dhamaadeen halkee bay ku gabagabaysmeen su'aashaas waa muhiim waqtiga maanta muhaadaradeena ku xidhan walaalayaal koow waxay ku dhamaadeen arrintaasi waxay ku dhamaatay dunidatan markay muslimiintu ka baxeen saddex qolo oo gaala ah iska daba weydaaratay gaaladii ugu horeysay waxaa la oranayay Portuguese iyo Spain waxay soo talinayeen 2 ilaa 3 qarni waxa ay geysteen halis bay muslimiinta u geysteen muslimiinta halistay u geysteen waxay ahayd markii la doonayay in la helo qaaradda America amba la iska helay muslimiintu waxay deganaayeen meel dhaqaalaha dunida ay ka maamulaan waqtiga dhaqaalaha dunida waxa gacanta ku hayay boqortooyadii muslimka ee Maroc iyo Algeria iyo Tunis ka jirtay oo dawlado muslimo isdaba maray ay hayeen waxay ka fikireen in ay dariiqaas bedilaan oo muslimiinta cunaqabatayn iyo gaajo lagu sameeyo waxaa la helay dariiq daba mara koonfur Afrika halka markii la daba maray oo loo socdayna Hindiya dariiqa iska xidha iyo maxaan ku dhahdaa Yurub muslimiinta ayaa fadhiday si halka looga weecday halka loo maray kadibna dadkii Hindiya ku socday waxay asarkeen iyagoo qaaradii Mareykanka jooga Christopher Columbus iyo Magellan iyo wixii oo dhan halka markay tageen waxay heleen qaaradda cusub waxayna u bixiyeen dadkii ay halka ugu tageen hindidii cascasayd ay dunida ka tirtireen al-hunud al-humur amba andiyaga annaku aanu naqaano kadib waxa weeyaan walaalayaal waxa ka daba qaatay boqortooyadii Ingiriiska oo la oran jiray boqortooyada ayna adceedu ka dhicin mararka kamida maxay iyadu samaysay waxay samaysay sida maanta ay tahay dunidu iyada u qaybisay iyada ayaa kurdida u qaybisay dhowr wadan Turkiga ku dartay Iraq ku dartay Suuriya ku dartay maxaan ku dhahdaa Iran si ay u noqdaan ummad isdoondoonta oo dagaal waligeedba ku jirta iyada ayaa garatay dagaalkii weynaa ee lagu qaybiyo dunida ila ka abahay in Soomaali shan loo qaybiyo in Afar la qaybiyo in Arab la qaybiyo in ma aragtay Turkimaanka la qaybiyo in caalamka dhan la wareeriyo oo wareerka muddo uu ku jiro markay isgartaana waan u fikiri doonaa baa leeyahay hadaad kaartiga qaaradda Afrika aad daawatid waxa la yaabaysaa sida loo qaybiyay hadaad daawatid dunida carabta sidii loo qaybiyay oo loogu diray Turkida odaygii Shariif Xuseen la oranayo loo dhiibay inuu sameeyo boqortooyo carbeed oo dhaxasha boqortooyadii uu sameeyay waa sida hadalka loogu dhigay ee Nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam oo been asliya ku fikirayeen oo jaamica al-arabiya lagu dumiyay al-jaamica al-islaamiya oo uu sameeyay Jamaluddin al-Afghani oo sida loo sameeyay oo ummadaha loo qaybiyay oo qowmiyad Hindiya la sameeyay oo sida loo qaybiyay waxa keenay systemkaas baa keenay systemkii wuxuu dhamaaday sida ay dhigayaan diraasaad la sameeyay oo cilmiyeysan qarniga 20aad dhamaadkiisii 9-nadii waxa la yiraahdaa adduunka imbicaaf baa ka dhacay waxbaan ka sheegi doonaa baraarug islaama dhacay dadkii muslimka way isgarteen wasiirkii arimaha dibadda ee dawladii de Gaulle ee Faransiiska ahaa wuxuu yiri maalimaha kamida maskii hogga uu ka soo baxay su'aal baa la weydiiyay waxa la yiri maska hogga ka soo baxay muxuu yahay wuxuu yiri muslimkii uu baraarugay qofkii muslimka ahaa uu baraarugay
سؤال بالويديو ما الحل باليري وحوري وإن مدحا مدرقات كقدفنا سوء مرضا بأوضوخو دبدا بسوء الضوخات وقالوا وإن لقوا دفتو وحائمي كاللو وريقي دولة صدحات اللو وريقتي أودي عالم كمركة مسلمين تكبحين كدب بورتخيس يا إسبانيا إنجليز باكدا بقاتي فرنسيس يا هولندي وحبا الله يروض وضي يا جرمال يا دقالات دحو سعودي لكن waxaa imika xuquuq qaatay waxaad ogtihiin nidaamkii anglo-saxonka oo sii socda oo dawladii Mareykanka waxay la soo baxday wax la yiraahdo dunida muslimka waa inaan gelino isku dhac waa inay isku waashaan fawda khallaaqa waxay u bixisay islaan rays la yiraahdo maqashaan anigu ma rabo inaan magaceega masaajidka ka sheekayo ambase la yiraahdo al-fawda al-bannaa waxay u bixisay waxay ugu magac dhabtay in madaxa la isku jiro oo kadib hadhow toole si aan anaku rabno ay wax uga soo baxaan sida daraadeed baa Ciraaq loo weeraray Ciraaq baa la weeraray waa la isku diray wad ogtihiin sunna iyo shiico waxaad maqli jirin bay ahayd kurdi iyo arab balaaya kaga soo baxday meeshii weynas ugu tala galeen waxa loogu tala galay in lagu xigsiyo wadano kale oo meesha jira Iran in lagu xigsiyo Suuriya in lagu xigsiyo maxaa ku radaa Saudi Arabia وهكذا laakiin waxa la meelahaasi waxba ka yara baraarugsan wayna la fahmayaan meel aanana la fahmay baa jirta waxa la yimid geeska Afrika Soomaaliya ayaa lagu dhiftay marka iyada ayaa dib loo gashay wax dhado fawda khallaaqa amba hadama amba bannaa isagu wuxuu wadaa system cusub dad baa yiraahda midigta xaq jirta ee Mareykanka ee yahuudu ay madaxa ka haysato ee la heshiiska ah soo celinta yahuuda lagu soo celinayo Falastiin ee lagu abuurayo si uu nabi Ciise hore u soo dhaadhaco sidaas daraadeed baa ugu wacan in waxa la sameeyo laakiin arinta waxba kama jiraan diraasada waxa sameeyay waqtigii Jimmy Carter uu xukumayay waxa bisleeyay waqtigii ka dambeysay Jimmy Carter ee Bill Clinton uu madaxa ka ahaa baa la bisleeyay waatii islaantii wasiirka arrimaha dibadda ka ahayd booqasho badan ku soo martay Afrika ee u bixisay al-qaaratul badiil qaarada lagu bedelayo marka bariga dhaxaan isku dirno ee islaamka ka takhalusno meesha aanu sii daaqayno inay Afrika noqoto sanskeega iyo batroolkeega iyo maaskeega iyo dahabkeega marka aan halkan hadana aan si kala u dajin doonaa systemkii baa la bisleynaya oo la karinaya waxa weeyaan isku diidano waxyaalada guud ee culus waxa la isku diidan yahay waxa weeyaan dimuqraadiyadda reer galbeedku waa sida iyo tiktiga iyo nidaamka iyo degdega oo bulshadameeyo bay ka cadhoodeen dimuqraadku kama cadhaysno inuu u soo hooyo guulo islaamka dib loogu dhigayo inuu nolosha dib ugu soo laamo haddaba walaalayaal mawduucaas aad aragteen ee inagu ohisiiyay ee Soomaaliya ka dhacay amba Palestine ka dhacay amba Iraq ka dhacay amba se ka dhacay Afghanistan amba se ka dhici doona waqti dhow wadan dad baa soo bandhigay inuu Pakistan ka dhacayo waad ogtihiin in inta nin maalin dhaweyta la qabtay la yiri waxa weeyaan ragii oo dhan baa Pakistan bay fadhiyaan waa in Pakistan wax laga qabto awooda weyn in lagu degdego ee muslimku uu leeyahay ee nuclear ka haysata in iyadana la yiraahdo waa in taariikhda lagu daro ma Iran baa horeyn ma Pakistan baa horeyn ma Sacuudiga horeyn su'aal caynkaas baa caalamka la isweydiinaya laakiin mid baa inay ku dhiftaan ay rabaan maalin kale oo aan dheereyn su'aalahaas intaas waxaan uga jeeday dhacdooyinkaasi walaalayaal wuxuu mara ka yahay in aan nool lahay mawduuca aan maanta inii soo jeedinayo oo ah al-ghurbatu wa mustaqbalu al-islami wa dawru al-muslimi fi hadhihi al-ayyam ciwaanka muhaadaradu waa sida al-ghurbatu waxa weeye xadiiskii rasuulkan ka soo qaadanaa ghurba nool lahay waqti qofka muslimkii ajnabi uu adduunka ku yahay غريب uu yahay la yaaban yahay qurbada baan ka sheekeynaa walaalayaal laba mustaqbalka islaamku waa sidee su'aasha baan isweydiinana islaamku muxuu noqon doonaa bacda in yar waa su'aal muhiim ah saddex mawduuca muhaadaradeena aniga dawrkaygu waa maxay ka muslim ma inaan sida odayaasha aan soo garamarayo u sheekaynaa maxaa la yiri iyo maxay tiri iyo maxay jaziira sheegtay iyo London maxaa laga waramay iyo CNN tu maxay tiri iyo journalka iyo magaziinka Le Monde muxuu qoray wahakada ila an adduunka ka tagayno oo noqono kuwa sheekaya dawrka muslimku muxuu yahay saddexda arimood weeyaan muhaadaradeena walaalayaal koow qurbada nabiga inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu ku yiri xadiis bada ad-diin ghariban
رواية كلا وحيتر هذا بدأ الإسلام غريبا إسلامكو وحوب الأمي إساقو لليا بيهي لقى أرقى حسينيهي لقى وريرسينيهي أيوب الأمي سؤال ليس ويدين أيوب الأمي وسيعود غريبا برسول كيري وحونا كسو نقندونا سدا سلم يدا إساقو هدنا لليا بيهي أو لقى أرقى حسينيهي إسلامكم محويهي محو دونيا ليس ويدين أيوب هدنا مرلا بعد نلاشو كسو نقندونا رسول كاري صلى الله عليه وسلم حديث كان النبي وحوري فطوبى وناقي جنة خير وحي أسغنتهي للغرباء كو الدين تهيستا وقت قددكو أي دوقسيهين أي بربضاني كبح سنيان إن إسلامي ما الشيكتان كو حجي سنيا إيا جنة أي أسغنتهي إيا خير كي وناقو رسولك والو ويدي من هم الغرباء يا رسول الله كوا غربدي وأيو وحوري عليه الصلاة والسلام الذين يصلحون ما أفسده الناس من سنتي كوا هجاجين يصوبين وحبضا أودتكو أي كحميين سنة يدبر النبي عليه الصلاة والسلام إذا وحويا ولا ليال غربدو وحيتها إلا بمرحلة دوت الغربة الأولى غربدي هوري إسلام كالليا بنا وقت النبي صوبحي كليجي قريش با اسويدينيسي أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء يراد ورم إلهيدي بدنا عالم كدنيا لي صدح بقول صدح اللحدا صنم يكو أروريين كعبدا يدو قرى تهريريهيغا أي دحدغان إلهي بدن بيلهايين أي عابدين وأيرجرين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفاء وحيا لي ملايين إله يا قارد هندية يا لول عابديو أو بين وحال عابديو الشمسيغا ضيحا دولكا كل مظاهر الحياة وإيابين ورم إله يدب إله قرى صاري سؤال بين نقطي غريب نقطي وحو كو هذا يودن غريب بين نقطي وحو دون يودن وحا لوجيك صحدا إساقنا وحو كلها إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ورمد قرآن نقول ورنيا بل قفقف إيا الله اسكن راعوا فكرة سيدوا فكريسين كيف تقولون غريب باتها غريب ميه إنك غريب سابي ديتكم بلامة ولا ليه هذه الغربة الأولى الغربة الثانية واتأن ما أنت نول لهي ما أنت وحا نول لهي غربة دي اللبات غربة اللبات محي لا هي ولا ليه وحويا وحي leedahay saddex arimood oo waaweyn meel kastiba u jeeso waad arkaysaa madaharka koobaadi waa maxay ee qurbadu ay ku tusayso inuu islaamku yahay wax dadku ay la yaaban yihiin waa qurbada diiniga ah diintiiba bal la yaaban yahay marka aad tiraadid islaamku sidaa uu yiri oo hamaan hore u maqalala waran oo hamay culimadu hore noogu sheegeen la adiga maqalaki way taale quraanka ku dhigan tahay xadiis waa madhar diini ah diintii bay ka muuqataa qurbadaasi waxay ka muuqataa in culimadii diinta laga yiri tawjiiha ka baxa orientation ka dadka inaad runta iyo beenta u sheegdeen dhan uga joogsada dadka waxaad uga sheekaysiin weysada iyo waxa weysada jabiya halka hadaafina aka hadlina xukunka aka hadlina maalka aka hadlina dhaqaalaha aka hadlina ribada waxa hadaad ka sheekaysiin siyaasadda faraha la galaysiin هذا سياسة قشينا وحباد لاقيسين بلايا اللي يمرسين جدار كفرديا مركا معاك شيء واحد كهذا الشيء فقهك دورة المياه فقهك كنيفك كشكاية كنيف ما قرينه وما شاء الله يراهدو مسقولات الله يراهدو حمامك كشكاية سيدا الله ما يدو سيدا وقتك الله ما يدو جنابة بابك هدافنا باب دورة المياه halka ha ka dhaafina ha ka talaabina hadaad ka talowdin halis baad adduunka gelinaysiin halkaas la geliyay waa qurbadii oo waadixa waa madhar min madahir alqurba qurbada labaad ay ka muuqato qurbadu waxa weeye waa madharka xadaariga adduunka inta leeg hadaad soo martid dadka ugu dib yaala waa muslim ajiib quraan bay haystaan waa bila nadaafad ilkoogu nadiif maaha jirkoogu nadiif maaha guryahoogu nadiif maaha dariiqyadoodu nadiif maaha waa mutakhallifin fi kulli as'idati alhayat waa nolol ajiib hadaa nidaamka way ka wada horjeedaan
nidaamkii uu nabi Muhammad dhisay way dumiyeen sallallahu alayhi wasallam dariiqa hadaa tagtid meel lacag lagu bixinayo oo banka amba meesha meel aad wax ku bixinaysid oo la isdaba joogo qofka muslimka ah isagoo sita cimaamada ayuu halkaas ka marow ka soo bixin adduunkii kale waa la soo daba joogsanaya waa lagu soo eegaya tani waa maxay waa muslim iska daba leeyahay kani waa muslim maxamed abdu rahimahullah marka uu tagay yurub uu soo laamay waxa lagu yiri maxaa soo aragtay wuxuu yiri islaamkii baan soo arkay halkana muslimiintii baan ku arkay islaamka nidaamkiisii iyaan arkay kala dambayn amar kala qaadasho wada tashi iyaan soo arkay laakiin halkan ma yaalo waa xadaaradii oo laga tagay diintu salaada markaan tukanayno xadaaradii baa ku jirta ilbaxnimadii waxa laga yiri imaamku haduu khaldamo ha raaci khaladkiisa maxaa sameyn u sheeg baa laga yiri waxa lagu barayo waxa la yiri safka nidaami oo maxaanu nidaaminayaa safka maxaanu nidaaminayaa nidaamka lagu barayaa lugta ugu qabo garabka ugu qabo ha ka horreyn ha ka dambayn wuxuu yiri rasuulku waxaan jecelahay sida ay malaa'iktu ilaahay agtiisa u joogsato inaad u joogsataan qurux nin maraykan oo askari oo janaqala oo ciidanka badda ee maraykanka amilaalka ah iyo salaadii taraawixda ka daawaday CNN-ta 3 sano ka hor uu daawaday salaadii taraawixda oo sheekh uu tujinayo maartay Suudaysi uu daawaday markay salaadii uu daawaday uu dhaadhacay gurigiisii buu ka baxay santarka islaamiga ee Washington buu tagay markaska islaamiga wuxuu ka yiri waxaan rabaa inaan islaamo su'aal baa la weydiiyay maxaa islaamnimada ku soo gelinaya lagu yiri wuxuu yiri wax qura ayaan arkay oo i tusaya inuu islaamku yahay diin nidaam diin intibaado amar la kala qaato diin markaan horumar sameynaysa halgeed ka aragtay salaadan ka arkay salaada ayaan ka arkay rasuulkuna wuxuu yiri la salata liman salla khalfa saf salaad uma sugno qofka ku tukada safka dabadiisa halka iskaga xidha oo muslimiinta ka dhaxbaxa salaad uma sugno madhar hadari weey markaad aragtay mar quro la rukuuci mar quro la sujuudi qof quro amar laga qaadan mar quro salaadii laga bixi mar quraatay dadkii muslimiintu salaada ka baxayaan ma aha salaad fardiya salaada ay tukadaan yahuudu ma ahin salaad aamus ah salaada ay buudiyiintu tukadaan ma aha salaad iyaduna hadal oo music lagu darayo salaada ay kirista ku tukadaan waa salaad intaba wadata waa salaad la hadlayo waa salaad la aamusan yahay waa salaad la wada tukanayo oo jamcu afdal yahay oo ka fadli badan yahay kaliimada waxaas oo dhan baa ku jira madharka xadaariga oo cibaadaadku ayna barayaan zakada xashka weysada aan ka baranayno waan ka tagnay walaalayaal waa qurba diintii oo qariinima arinta saddexaad ay qariibnimadu ka muuqato waa maxay walaalayaal qurbadu ay ka muuqato waa jaanibka akhlaaqiga ah jaanibka dhan ee uu nabigu yiri waxaan u imiday inaan akhlaaqda dhiso إنما بعثت صلى الله عليه وسلم لأتمم مكارم الأخلاق أخلاق ده تيدا ووين إنان للسؤون رميو يا الله يسو صاري مظهر كاسوان كتغني مظهر كأخلاق ده إيا الضبيعة وناقة والله كتغني ما ها أخلاق ده فردقة أخلاق ده جماعة ده أخلاق ده أمده أيلاده هاي والله كتغني أخلاق ده أصورنا فرهان كقادنا ولا ليال وأنا أركي سواقعين مسلمكو وقشاش قشاش maxay ka dhigtay baaca mushtari markuu sameeyo bal suuqa tag adigoo daaro Orobo kaaro ki wax ka iibinay wallahi 2500 biyo ku jooga adiguna 2200 laga siiso wallahi alazim wallahi ya daarakayri qofna kama oran caalamka kale way iska qoran tahay 2200 oo faran bas inta weeyaan iga ridmay iska socodada iibso خلاص waxad kani uu daaranaya markaas buu soo dhaaranayo oo been iyo show nabiguna sallallahu alayhi wasallam akhlaaqda noocaas uu ka digay waxa arkaysaa qishkaasi ma ahinun baayac mushtariga imtixaanada adduunka islaamka lagu mar ardaydu maraan qishki wala wada qishaya macallinka uu qishi ardaygu uu qishi wala wada qishaya waa dunida islaamka oo dhan illa shahaadooyin dhan oo jaamicadaha muslimku bixiyaan dawladaha waaweyn ictiraafi waayeen ay yiraahdeen si loo soo bixiyo lama garanayo waa qish weeyaan qishku waa sidaas adduunka islaamka lama aamino hadii doorasho la sameeyo waxa la goranayaa isagana lama oga inay doorashadaas run tahay inay been tahay waa qish baa la goranayaa qish uu noodhan oo wada qish ah sidee u noqon marka ummad dhisi karta runtii way yartahay marka jaanibka akhlaaqiga ana waxaan ku jirnaa walaalayaal in ay ka dhacday qurba ay ka dhacday qurba rahiiba qurbad dadka muslimiintu ay diintoodii mataleen ma matalayaan marka madaahirtu waa taas waxaanu imaanaa su'aal
markay qurbadu imatay oo diintiina ay cajiib noqoto lala yaabo diinta qofka sunnaha dabaqaya waa lala yaabi qofka sidii rasuulku u tukanaya u tukada waa lala yaabi waxa la orani hadduu salaada dheereeyo salaadii baa dheeraatay waa qurba waa la yaabi salaadu dheera saxaabada ka sheekaysay nabigu inuu salaadii xidhay duhurka oo miskiidka uu markuu xidhay ay socdeen ay baqiic agtiisa tageen ay ku soo xaajo guteen oo ay soo weysaysteen oo ay soo noqdeen oo rakacadii koowaad nabiga ay ku soo gaadheen calayhi salaatu wasalaam isagoo rakacadii koowaad tukanaya wuxuuna ahaa nabigu aksaru nnaasi takhfiifan ka ugu fudud salaadiisu ay ahayd salaad dheer ma aha taasi way fududdahay laakiin qofka sidii nabiga u tukay dhahda waa lala yaabayaa salaad cajiibuu la soo baxa la odhanayaa uu dheereeyaa haddii uu maaragtay dadka muslimiinta ah uu sidii uu nebigu u soomayo u sheego waxaa la odhanaya annaku ma aan maqaltan haddii la idhahdo sidii xashka ah taa annakuma maqal waa lala yaabaya waa madhar diini ah madharka xadaarigana waad aragteen waxa uu yidhi axadu culamaa'i alislaam kitaab buu ku qoray sheekh maxamed ghazaali dhahdo haddii la yidhaahdo shay wal oo muslimiintu ay sitaan oo adduunka islaamka yaalla haddii la yidhaahdo meeshaad ka imatay ku noqo low qiila likulli shayin fi lbilaadi alislaamiya cud min xaysu ji'ta meeshaad ka imatay ku noqo haddii la yidhaahdo la khashiitu buuhi waxaan ka baqi an yamshiya annaas inay dadku socdaan xufaatan iyakoo cagaagan curaatan qaaqaawan iyakoo cagaagan kabaha dacaskanaana kuma samayno dowladda islaama ma samaysa dacaskana mad in shiin baa ku wada qoran shiin baa inoo soo waxaysa markaas baa adduunka waxaa la socon iyakoo qaawan oo cagaagan maxaa yeelay wax ay ku filan yihiin ma sameeyaan waxa cajiiba sheekh qardaawi baa idhaahdaa waxaa yaa badan ummatu lxadiid ummatu suuratu lxadiid ummaddii ilaahay ku soo dejiyey suuradda xadiidka ah oonan samayn karayn xadiid ma samayn karayso waan ka sheekaynaa suuratu alxadiid waanzalna alxadiida fiihi ba'sun shadiid wamanaaficu linnaas waa kaa batroolka adduunka islaamka iskale intiisa ugu badan waxaa laga sameeyaa 70 nooc oo tiknolojiyaga cusub galay 70 nooc hal annakuma samayno waxaa la isku haystaa lacagtiisa imisaa soo gaadha caalamka islaamka imisaa u soo noqotaa dowladaha soo saara batroolka marka ay ku soo saaraan imisaa u soo noqotaa imisay ka helaan lama garanayo waxaas oo dhan ayaa qaraa'iba walaalayaal akhlaaqdana waa ka sheegnay maxaa nataa'ijoo ka dhalatay qurbadaa maxaa ka dhalatay waxaa ka dhashay 3 arrimood oo iyakuna halis ah oo diinteennaba taabanaya nolosheennana taabanaysa kow waxaa ka dhalatay alriddatu alshaamilatu waljuz'iyatu min axkaami alislaam in ay ka baxeenba dad fara badani diinta islaamka dibadda ka joogsadeen ridda shaamila ay sameeyeen qaarna ay badh diintii ka baxeen badhna ay haystaan riddadaa baa dhacday ridda marka aan leenahay dib baaba diintii looga laamay caalamka dhan waddanno dhan ayaa mamnuucay tacadudkii mamnuucay muslim ah ayaa ku odhanaya naag labaad naag saddexaad lama guursan karo waa mamnuuc maaha waa ka tashiya maaha waa mamnuuc ilaahay baana oggolaaday 2 iyo 3 iyo 4 baa isagu xikmad uu garanayo waa la mamnuucay waddanno muslima magacooga sheegayna waa la isku wada garanaya way mamnuuceen waa ridda qaar baa odhanaya qaanuunka la idhaahdo kiriimka alqaanuun aljinaa'i alislaami qaanuunka kiriimka islaamka qofkii qof dila ha la dilo qofkii waxaada gacanta ha laga gooyo marka shuruudii loo dhammeeyo qofkii zinaysta ha la jeedaleeyo marka shuruudii loo dhammeeyo qofka sidaa yeela sidaa ha laga yeelo waxay odhanayaan waa qaanuun qaasi ah waa qaanuun adag waa in laga tago way iskaga tageen ilaahay bay saa ka leeyihiin subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu leeyahay aantum aclamuu am illaah war maynikaa cilmi le mise ilaahay subxaanahu wa tacaala maynikaa cilmi badan mise ilaahay baa cilmi badan ilaahay baa soo dejiyey waxan oo ilaahay baa ogna markii la dabaqi waayey qaanuunka dilka ayuu dilku batay waxba ma qabanayaan xabsiyo la badiyo iyo maaragtay mawaaqicu ta'hiil meelo rehabilitation lagu sameeyo dadka dib loogu tababaro wax ay tarayaan adduunka waa laga waayey waxba ma qaban sidaas bay leeyihiin marka riddaa ka dhacday waa laga dareeray ridda juz'iyaa ka dhacday waxaad ogtihiin waddanno muslima iyaa mamnuucaya xijaabka in la qaato muslim bay sheeganayaan
آيات قرآن كإسك خلافيان إلهي وكسو دجي النبي جيسا وحاد كتر هذا دمر كاغا هبلهاغا يكون مؤمنين تأبا يدنين عليهن من جلابيبهن سيدا كده دارك جلباب كسيد ديستا وحالي وخيمت وحشراع وين أو لقد حجروا ويان وإلا الضادية ولا قد هذه قبض حجابا شقمها ليسوا آخر شيء واحد شركة الديارة يا مروك waxay tiri gabar xijaaban ma soo shaqatay karayso gabar xijaaban oo beelodada jireysay waxa la yiri kala dooro xijaabka iyo pilotnimada waxay tiri waxaan dooranayaa xijaabkayga waxa weeyaan gabar xijaaban baa doorashadii baarlamaanka heshay Turkiya waxa laga yiri kala dooro inaad kursiga fadhiisatid oo muslimiinta matashid ku dooratay iyo inaad xijaabka ka tagtid waxay tiri xijaabkayga kama tagayo xijaabkay dooratay markaabay anaku waxaan la yaabanahay ingiriisku inuu niqaabkii mamnuucay niqaabku waa xijaabku kamid yahay waa la mamnuucay waa la diiday faransiisku u diiday waa dawladda gaala annakii bay qaarkeen diidan yihiin muslimiinta waa ridda qurbada keentay waa la yaaban yahay rag baa ku leh muslim sheeganaya sida ninka arkoon la yiraahdo kale xijaabku kuma soo aroorin quraanka subhanallahi alazim kitaabka ilaahay quraanka xijaabka aayad amraysa kuma jirtaba حديثاتنا يجب الدابوري والشيكة أي سميين أبي هريرة يقولي ما هو الرنا حديثكم لكن قرآن كإلهي كما قرنا آيات حجاب كأمر إيسا ساسبولو أركون ومسلم وحال هذا وبروفيسور وحال هذا وفيلسوف وحول جامعة هذا وين وضلك فرنسيسكو كيالا مركز ساس وقبا وقنع سياحي وكدوضا يا غربة كانت الردة عن أحكام الإسلام الكلية والجزئية شاملة وجزئية يا الله قلعمي دبا لوغا دحاي والنتيجه قربدا كانتي ولا ليال قربدا كانتي arrinta labaad ay qurbadu keentay waa baxay qurbadii markaan ku noolaanay arrin labaad bay keentay natiijo keentay natiijada labaad waxa weeye in la kala kaxeeyo si fudud diinta iyo nolosha in la yiraahdo ad-diinu lillah diinta ilaahay baale noloshana yaale noloshana ilaahay qeyrkii baale subhanahu wa ta'ala أنك قرآن كسيدا نومشيجين لكن ونتيجة قربنا بعد الغربة يمتي بعد الاستعمار بيمتي وحاني الله شيء وردينتنا إلهي باله نلشنا إلهي غير كباله قرآن كان وحاكو قرآن إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون إلهي بس دايري إن الحكم ورنلش حكم كيغا إلهي باله محا حلالا محا حارانا إلهي بالي أمر ألا تعبدوا إلا إياه وحونني أمري إنا ندعبد إلا إساقا والله لبدا بيك لقادين إيو إنو شاقي لبدا مرك اللي يسكوك إيو ذلك الدين القيم دين تتوصني واتا ولكن أكثر الناس لا يعلمون دادك إنتو ذا أقبضني مقرنا ينبو إلهي سبحانه وتعالى مركا دادك إنتو أقبضني إيه المسلمين تأهين إيه نرشا إيه دين تكالا سارت إيان رعني qurbadii baa keentay marka waxa weeye waa aniga marka sheekha fatwa la weydiinayo lagalama tashanayo maalul caamka xoolaha ummadda xoolaha dadka lama weydiinayo waxa lagala tashanayaa gabadha xaydkeega iyo nifaaskeega dhiigi usbuuca markay maada iyo markay dhasho maxay yeeli intaas la weydiinaya fatwa lagama weydiinayo arinta waa halis weeye lama weydiinayo fatwa lagama weydiinayo waxa kale nolosha waxa la yiri hadduu ka yaqaanana ma taqaanid quraankana waxa lama weydiinayo nabigaana sheegay calayhi salaatu wasalaam qurbada marka imato ala inna alqur'ana was-sultan sayaftariqan buri quraanka iyo nolosha iyo maamulka waa la kala kaxayn doonaa way kala socon doonaan markay kala socdaan quraanka raaca buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam واتيكوبا واتي لبعض الفصل بين الدين والحياة جميع مظاهر الحياة يا لغوي دينيا يكا إنو سمي قاعدة هذا لا اقتصاد ايكونوميك لما سمين كرو بدون بنوك بلا بانن إلا يهودا بانك سميس أسل كيجي مؤسسات كمالي قردن بي سميسي waxay ka soo bilaamatay xeebaha wadanka Talyaaniga markii la bilaabay ilaa caalamka dhan lagu qabsaday system bay ahayd system kaaba dunida dhan lagu maamulay biduni bunuk wala bunuk bay dhaadeen baanana ma dhici karayaan lama sameyn karo
bilaa riba bilaa antiirib bilaa ribo idan waxay ka dhigan tahay qofka muslimka hadduu doonayo inuu lacag yeesho waa inuu ribada qaato haddii kaleetase weligaaba faqiir ahaw si kale ma jirto ma dhici karayso way dhici kartaa wadaad baa tahay waxaa tahay antigrist baa tahay waxaa tahay mid xag jiraa tahay waxaa tahay mid nolosha adkaynaya war mayaanoo nolosha wada oy qurux badan tahay ayaa la samayn karaa bank islaamiga waxaa la samayn karaa etabliismaayo iyo mu'asasaad islaami ah oo xalaal iyo xaaraan garanaysa oo horumar keeni karta waddanka malaysiya ka mamnuucay waddankiisa si mutadarrija ribadii wuxuuna ku socdaa 2025 inuu gaadho sifir in ayna jirin wax la yidhaahdo ribaba oo uu noloshooda ka masaxo si uu ugu xoroobo ribada waa la dejiyey horumarkuna wuxuu xaqiiqsamayaa 3% 6% inta u dhaxaysa wuxuuna ag socdaa dawladda Shiinaha oo xaqiijisa 7% ilaa 13% wadano badan oo Yuruba ay Malaysia sida u xaqiijinayso horumarka ay kaga horeysa kadib markay waafaqday diinteedii iyo dhaqankeegii sidii uu dejiyay Mahathir Mohamad ninkii la oran jiray iska tagay madaxtinimada ee uu la talin jiray mufakkirkii islaamiga Anwar Ibrahim la oran jiray ay markii damar iskhilaafeen idan waxa weeyaan waa sidaas baa la diiday haysta kala la wadaa waa natiijada saddexaad waa maxay walaalayaal natiijada saddexaad waxa weeye al-insihab al-hadari markay waxaasi dhaceen noloshii baan ka baxnay waxaan noqonnay fi dayl al-qafila qafilada socota safarka socday caalamiga ah halka dambaan ka kornay tareenkii halka horaan ka joognay halka dambe in laga waan insihaabnay المتفرجون الكرام بان نقولني dadka spectatorada ee si fiican u dawaanaya waxa dunida maanta ka dhacaya idan waxa weeyaan walaalayaal intaasina waa nataa'ijtii ka dhacday bacda al-ghurba markii dadku ay diintii ka tageen ay qurba noqdeen okay waxaanu imanaynaa arinta saddexaad waxa weeye adduunka aanu ku noolahay ilaahay baa xukuma ilaahayna subhanahu wa ta'ala laba aayadood oo quraana soo qaadanayna oo arin khatiira inoo sheegay koow wuxuu inoo sheegay waxay gaaladu rabaan wuxuuna inoo sheegay wuxuu isagu rabo labada aayadood buu noo kala sheegay wuxuu inoo sheegay yuriiduuna ilaahay baa sidaa leh waxay rabaan liyutfi'u laamkaas eeg waxay rabaan liajli idfaa'i nuurillah waxay u shaqaynayaan inay baktiyaan nuurka ilaahay shirar baa la galaa mu'tamaraad kuwa aan muuqda iyo kuwa aan muuqan baa la galaa shirar muuqda iyo kuwa aan muuqan waxaa la dejiyaa khutat barnaamijyo kuwa aan aragno iyo kuwa aan la arag waxaa la sameeyaa taktiikaad kuwa aan ognahay iyo kuwa aan ogeyn waxaa laga taliyaa wax la yiraahdo sideen muslimiinta uga takhalusnaa waxaa laga soo bilaabaa aqeedadooda waxaa lagu dhameeyaa fizik jir ahaan sideen uga takhalusnaa kayfa natakhallas minhum lamana qariyo waxba ka sheegi doona ilaahay wuxuu yuriiduun way doonayaan yuriiduun waa maxay af carabiga waa ficil mudaaric ma aha ficil maadi araadu lamura waxay doonayeen waxa weeyaan yuriiduun imikay doonayaan waqtigii nabigay doonayeen waqtigii umar bay doonayeen imikay doonayaan beritoolay doonayaan waqti walba way doonayaan yuriiduun waxay doonayaanna waa maxay inay nuurka ilaahay baktiyaan ilaahayna wuxuu subhanahu wa ta'ala ilaahayna wuxuu wa ya'ba allah ilaahayna u diiday halkan bay mushkiladu ka jirtaa iyaku waa yuriiduun ilaahayna ficil mudaaric buu ku hadlay wuxuu wa ya'ba allah ilaahayna u diiday muxuu diiday ilaahay illa an yutimma nuura inuu nuurkiisa dhameeyo maahina in kale u diiday waa inuu nuurkiisu adduunka gaaro ilan laba dagaal baa socda labada dagaal wuxuu dhex socdaa rag fikiraya iyo ilaah diintiisa doonaya inuu fidiyo labadaba ay haysto waa mushkilad kale waa ajiib waan ka warrami doona waxa ka dhashay wuxuu ilaahay inoo sheegay inay doonayaan maaha wayba siyaasad bay dhigayaan wayamkuruun buu ilaahay wayamkuruun yawm alqiyaamaha marka ay dadka naarta ilaahay isku keeno kuwii la wareeriyay sidii noo kale ilaahay kuwa la wareeriyay nagama dhigee oo naarta iskugu yimaadaan kuwii wareeriyay iyo kuwii la wareeriyay bay isla hadlayaan waxay oranayaan kuwii la wareeriyay waxa cadaabtana keenay makru layli wan nahaar bay oranayaan habeen iyo dharaar makrigi aad sameeynayeen barnaamijkii aad dejinayseen habeen iyo dharaar makru layli wan nahaar maaha makru nahaarun hatta al-layl baa la fikraya habeen iyo dharaar iyo la fikraya wayamkurun ilaahayna wuxuu wayamkurullah iyaku way dejinayaan ilaahayna uu dejinayaa laba dejis baad garab socota
dejistoodii waxa aan aragnay bay keentay tii ilaahayna maxay keentay ilaahayna wuxuu dejiyey maxay keentay waxay keentay waxaan soo socda waxay keentay waxa ay u bixiyeen rag gaalaha markaska cilmi baadhista ee Washington qaybtiisa diraasaadka islaamiga samaysa qaybtiisa adduunka islaamka diraasada ku samaysa waxay soo saartay waxay yiraahdeen 1966 marka laga soo bilaabo ilaa laga soo gaaro 2000 adduunka muslimka waxa ka dhacday waxay u bixiyeen inbicaaf islaami waxa dhacday bay yiraahdeen baraarug islaamiya hurda ka kacba dhacday bay yiraahdeen hurda ka kacba dhacday dadkii way tooseen saxwa way baraarugeen maxay ku baraarugeen bay yiraahdeen maxay ka baraarugeen maxayna ku baraarugeen labada shay bay qoreen waxa qoraaniga maaha muslimna maaha waa markas dhan oo muslimiinta daba gura waxay yiraahdeen koow waxay ka baraarugeen inay nolosha ka hadheen waxay ka baraarugeen in la haysto oo iyaka aynan xor ahayn madaxa iyo dhulkooga inta calan loo taagay calanna kale oo si kala ay haystaan bay arkeen waxay ka baraarugeen arkeen oo ay ka cadhoodeen xoolahooga in loo taliyo oo iyaku ay lahaynba taasay arkeen arinta saddexaad waxay arkeen diintoodu iyo ahaantooda idanteedooda huwiyadoodu inay halis ku jirto ay arkeen arinta shanaad waxay arkeen dadka eliidkooga ah dadkii aan oranay ninka u fikira inayna isku tol ahayn bay ogaadeen mufakkiriintoodu inay yihiin reer galbeed bay ogaadeen dadka maskaxdoodii in la iibsaday bay ogaadeenoo war naga joogsadeen kuwa kale samaysteen inta bay ogaadeen bay yiraahdeen waxa ay doonayaan bay yiraahdeen maxay doonayaan waxay doonayaan bay yiraahdeen inay xor noqdaan oo waxay yiraahdaan laba xurriyadood bay doonayaan xurriyadii hore waxay yiraahdaan dhulka gumaysigii baa ka tagay laakiin aasaartiisii baa wali joogta wixii uu nagaga tagay baan eriyeynaa aasaartii raadkiisii dhaqankiisa fikradiisii wixii oo dhan baan eriyeynaa waa koow waxay doonayaan waxooga inay iyaku maamushaan xoolahooga min meesha ay ka soo saarayaan ilaa gabagabada inay maamushaan waxaa bilowday bay yiraahdeen tajribada Suudaan baa tiri batroolkayga anaa soo saaranaya Mareykan bay u diiday Ingiriisna way u diiday Faransiisna way u diiday Shiinaha u tagtay Shiinaha iyo Malaysia u yeeratay kaalay soo saaray tiri waa la soo saaray batroolkii baa mutadafiq noqday batroolka ugu badan bariga dhexe Iraq bay ku xigtaa waa dawlad saaniya waa la ogyahay waa dawladda labaad waxa la yiraahdaa halisba in gelinaysa maxaa la yiri markaa waxa lagu diray waxaad ogtihiin in la yiri lihishii hadii kale waxba dhici koonfurti John Grant oo madaxtooyada fadhiisi ninkaas markuu dhintana Salvador baa tagay waxa hadana lagu soo kiciyay markuu la heshiiyeen ay fahmeen khudadu meesha u socoto waxa la yiri Darfur meelada la kiciyay Darfur marka ay kulba inay qaboojiyaan arkaan meelada qarbi Suudaan baa la soo kicinaya imika oo leeyahay waa khudadii ugu dambaysay haakada waxa la rabo waxa weeyaan walaalayaal sidaas waxay rabaan taabay rabaan baa leeyahay okay inbicaas baa dhacay inbicaas baraarug amba saxwa yaqda baraarug baa dhacay dunidoo dhan islaamkoo dhan baa baraarugay nin isaguna Mareykana oo dabagura arrimaha islaamka wuxuu yiri laba shay markaad u fiirsatid muslimiintu kuwii shalay ma aha markaad masaajidda u fiirsatid masaajiddu say u dhisan yihiin say u badan yihiin iyo sida loogu dhex badan yahay waa ajiib waa arin ku tusaysa inay islaamku uu noolaanayo arinta labaad waxaad arkaysaa buuri umrada iyo xajka 30 sano ka hor waxa tagayay ka ugu yari ko tunjir buu ahaa maantana 80% dhalinyaro tagta 30 sano ka hor waxa tagayay 200 oo kun oo qof ilaa 200 kun oo qof maantana waxa tagta 2 milyan iyo badh ilaa 3 milyan iyo badh oo qof baa tagta umrada buuri waa umrada wuxuu sheegayo waxa joogta buuri maalinta 720 iyo maalinta quraanka la dhameynayo 3 milyan ilaa 5 milyan ayaa labada xaram ku tukanaysa oo dhalinyaro buuri oo dunida ka imatay kuwaas oo hore u tagi jiray dunida lagu soo tunto hore bay u tagayeen dadka khaliijkii meelaha lagu soo tunto maantana waxay tagaan buuri xaramka arinta kale ee uu tilmaamay wuxuu yiri waxaad aragtaa buuri qof kasti oo muslima oo meel ka shaqaynaya waxa agtiisa yaala kitaabka quraanka ah oo dabcadda aniiqa ah saasuu leeyahay dabcadda quruxda badan leh ee lagu sameeyay Madiina iyo agtiisa taala nin walba oo shaqaynaya
waxaad arkaysaa buu yidhi qof wal oo shaqaale ah shalay isma weydiineen salaadii maa la eedaamay maanta way isweydiinayeen salaadii maa la eedaamay waa madaahirta u arkay isagu sidaas buu u dhigay nin la yidhaahdo imbicaas baa dhacay waa baraarug iyaku sidaas bay rabeen ilaahayna sidan buu rabaa wayamkuruun wayamkuru allah tii ilaahay baa socota waxani aan arkayna waa tii ilaahay subxaanahu wa tacaala arrinta ninka la yidhahdo muraad hofeman wuxuu ahaa safiir dowladda jarmalka u diratay waddanka marocco iyo algeria halkaa marka uu tagay wuxuu arkay waxyaalo fara badan oo annaku aan arkayn wuxuu arkay qofka muslimka oo degan qofka muslimka oo qalaq lahayn qofka muslimka oo hooyadii u naxariista aabihii u naxariista qofka muslimka oo cadaysito waxyaalo aan tilmaamayn qofka muslimka oo markuu suuqa tagay suuqa weyn wax lagu kala gato sidoo maxamed asad ba arkay wuxuu yiri waxyaalada itaabsaday waxa kamid ahaa nin muslim oo masaajidka ku maqan iyaan tagay suuqa inaan wax ka gato Morocco Dar al-Bayda Casablanca magaalada dhaxdo iyaan tagay waxaan rabaa inaan wax iibsado waxaan iri buuri waxa ma haysaa haawaan hayaab ninkayga iri buuri laakiin anu wax badan baan haystaa oo kaleeto oo iibiyay dhig baa waxaan uu iibiya agtayda oo aaw isagii masaajidku ku maqayay keenana kaas iibina buuri waxa Yurub kama dhacdo buuri isaga lacagtii iga qaaday lacagtii baan u dhiibay kadibna lacagtii buu u hayay ilaa uu soo noqonayay ninkaas buu kale intaad maqnayd waxa baan ku sii iibiyay waa kan lacagtaadii wuxuu yiri waa akhlaaqiyad aan lahayn hadaan nahay reer galbeed ninka markuu islaamay wuxuu qoray kitaab halka damaan meel kaga sheegi doon laakiin laba shay baan uga jeedaa wuxuu yiri islaamku soo noqodkiisa waxa ku tusaya الإسلام كبديل بقري إسلام كبديلية فشل ككوي labada nidaam kapitalismiga iyo shuuciyadaba islaamka adduunka qabsan doona saabu isagu qaba muxuuri ninkaasi wuxuuri waxa ku tusaya masaajidu say u buuxaan maanta lixdankii anigu wuxuuri muslim ma ahayn laakiin waxaan arki jiray masaajida waan ziyaarin jiray waxa ku tukan jiray odayaal duqa isagoo cibaarada uu qorayo wuxuu yiri Rashid Qanuushina uu ka soo qaatay dallaqathumul hayatu wa talaquha kuwa ay noloshu furtay iyaduna ay furtay iyo kula furay iyo soo dudayo miskiidka iimayna way soo dudeen marka islaanta la furo samadudo iyo kuna way soo dudayeen marka bay safka hore fadhiisanayeen inta hore miskiidka ma soo galeen laakiin maanta wuxuu yiri masaajidu way camiran yihiin muslim oo dhan baa ka camiran marka waxa jooga rajul al-a'mal daafirki nigi lacagta laha iyo miskiidka jooga waxa jooga faqiirki waxa jooga sheekhi waxa jooga mufakkirki waxa jooga ekrivaagi kaatibki waxa jooga siyaasigi waxa jooga dhaqaalistigi waxa jooga niki scientific aha ee ku takhasusay dhakhtarnimada kullu muslimiin iyo masaajidka soo galay xuduurul masjid ayaa noqday arinta labaad uu isagu tilmaamay waxa weeyaan xijaabku xijaabka waxa dhacday buuri kontonooyinkii dunida muslimka oo dhawaa la qawiyay sheekh Qardawi ba xataa sheegay wuxuu dhahdaa magaalada Qaahira inta leegtahay waa magaalo weyn waxa ku nool imika 20 milyan laakiin bariga 5 ilaa 6 milyan baa ku noolaa kontonooyinkii waxa uu yiraahdaa islaanta duqda ah waxay ka xishoonaysay madaxeega inay Masar dul dhigto Masar way ka xishoonaysay maantana hablaha Qaahira jooga boqolkiiba 50 way xijaabteen wayna ku socotaa bal waxa dhacday dumarkii fanaaniinta ahaa ee metelayay filimaanta ayaa naadiyo kale way ka laameen way ka baxeen waxay ka tageen cuslay sameeyeen way xijaabteen qaarkoodna way matalaan iyo ku xijaaban diintii bay galeen waxay fahmeen inuu xijaabkaaba ah soo noqod islaamiga lama rabin inay gabadhu xijaabato inay isa sii qaawiso inay qaadato jiib inay mini jiib qaadato inay maya marka dambe kalsoon iyo kiishari qaadato sida ka dhacday adduunka galada ma in la yiraahdaba keeshaligu waa culays bila keeshali waa culays keeshaligu oo bila keeshali la noqdo wadanay ku doodaan waxa jira xeebadhan oo lagu dabaasho sidoo ilaahay u abuurayo ko ay dabaalanayaan oo la arkayo sidaas bay rabaa in adduunku uu noqdo qaara ku doodan oo leh linakun kama khalaqana allah sidoo ilaahay noo abuuray ha noqono sidaan ahaan jirnay ha ku noqono bila dhar yaani waxa weeyaan walaalayaal waa taas baa ku tusa imbiaaskaas baraarugaasi إذا سؤال بان اسويدين لا ولا يال سؤاشا أن أؤمن مستقبل كإسلام كسدون نقولي إنت أؤمن سؤال خطير أو إنه قصة نقوليسا أو مركز تبع بجيسان يسيد يا اسويدين يسا سؤاشا سوى حوي لماذا يخافون من الإسلام والرجع قالوا إسلام كما حيوقع عصونا يا سكلا سؤاشا أودعنا لماذا يخافون من المسلمين والمسلمين كما حيوقع عصونا يا
muslimku maxay uga cabsoonayaan aniga miskiinka ah ee waxba haysan ee dhaqaale haysan ee baabuur iyo dubaabada iyo diyaarada iyo dayax gamceed iyo balaaye iyo aan haysan ragga haysta maraakiibtii ugu dambeeyay ee haysta dhulka cirka samada hoosta wax jeeda wax dhulka gala waxa ay naga anfaqathumul hayata dallaqathumul hayatu wa talaquha kuwa ay noloshu furtay iyaduna ay furtay iyo kula furay iyaa soo dudayo miskiidka iimanay way soo dudeen marka islaanta la furo samadudo iyakuna way soo dudayeen marka bay safka hore fadhiisanayeen inta hore miskiidka ma soo galeen laakiin maanta wuxuu yiri masaajidu way camiran yihiin muslim oo dhan baa ka camiran marka waxaa jooga rajul a'maal daafirki ninkii lacagta lahaa iyo miskiidka jooga waxaa jooga faqiirkii waxaa jooga sheekhi waxaa jooga mufakkirkii waxaa jooga ekrivaagi kaatibkii waxaa jooga siyaasigii waxaa jooga dhaqaalistigii waxaa jooga ninkii scientific ahaa ee ku takhasusay dhakhtarnimada kullu muslimiin iyo masaajidka soo galay xuduurul masjid ayaa noqday arinta labaad uu isagu tilmaamay waxa weeyaan xijaabku xijaabka waxa dhacday buuri kontonooyinkii dunida muslimka oo dhawaa la qawiyay sheekh Qardaawi xataa sheegay wuxuu dhahdaa magaalada Qaahira inta leegtahay waa magaalo weyn waxa ku nool imika 20 milyan laakiin bariga 5 ilaa 6 milyan baa ku noolaa kontonooyinkii waxa uu yiraahdaa islaanta duqda ah waxay ka xishoonaysay madaxeega inay Masar dul dhigto Masar way ka xishoonaysay maantana hablaha Qaahira jooga boqolkiiba 50 way xijaabteen wayna ku socotaa bal waxa dhacday dumarkii fanaaniinta ahaa ee metelayay filimaanta yaa naadiyo kale way ka laameen way ka baxeen waxay ka tageen cuslay sameeyeen way xijaabteen qaarkoodna way matalaan iyo ku xijaaban diintii bay galeen waxay fahmeen inuu xijaabkaaba ah soo noqod islaamiga lama rabin inay gabadhu xijaabato inay isa sii qaawiso inay qaadato jiib inay mini jiib qaadato inay maya marka dambe kalsoon iyo kiishadi qaadato sida ka dhacday adduunka gaalada maya in la yiraahdaba kiishadigu waa culays bila kiishadi waa culays kiishadigu oo bila kiishadi la noqdo wadanay ku doodaan waxa jira xeebadan oo lagu dabaasho sidoo ilaahay u abuuray ko ay dabaalanayaan oo lees arkayo sidaas bay rabaa in adduunku uu noqdo qaara ku doodan oo leh linakun kama khalaqana allah sidoo ilaahay noo abuuray ha noqono sidaan ahaan jirnay ha ku noqono bila dhar yaani waxa weeyaan walaalayaal waa taas baa ku tusaysa inbicaaskaas baraarugaasi idan su'aal baan isweydiinaa walaalayaal su'aasha aan u iman mustaqbalka islaamku sidoo noqonay intaan u iman su'aal khatiir ah oo inagu soo noqonaysa oo markastiba aad dhageysanaysid iyo isweydiinaysaa su'aashaasi waxa weeye limaada yakhaafuna min al-islam wa raga gaaladu islaamka maxay uga cabsoonayaan si kala su'aasha u dhigaynaa limaada yakhaafuna min al-muslimin wa al-muslimiinta maxay uga cabsoonayaan muslimku maxay uga cabsoonayaan aniga miskiinka ah ee waxba haysan ee dhaqaale haysan ee baabuur iyo dubaabada iyo diyaarada iyo dayax gamceed iyo balaaye iyo aan haysan ragga haysta maraakiibtii ugu dambeeyay ee haysta dhulka cirka samada hoosta wax jeeda wax dhulka gala waxa ay naga anfiriiriyeen ka cabsoonaan ragga haysta ee inta laagi limaada yakhaafuna min al-islam maxay islaamka uga cabsoonayaan ambaba min al-muslimiin maxay uga cabsoonayaan limaada maxay uga cabsoonayaan waa su'aashaas baan inaan ka jawaabna aan jecelahay waxa oranaynaa inta aan su'aasha jawaab ka bixin yaab waxa leh sida uu qoray nin daba guray saddex arimood oo wararka fidiya meesha la yiraahdo CNN iyo meesha la yiraahdo Al Jazeera oo wada taqaanaan oo iyaduna wararka aad u faafisa iyo mowqic wararka laga gurto oo internetka kamida saddexda markuu daba guray wuxuu yiri warka ugu muhiimsan ee ugu xasaasisan ee loogu jecel yahay ee dadka oo dhan ay galaan waa wararka dunida muslimka marka laga soo qabto 1995 ilaa iyo imika ilaa maanta ilaa imika warka ugu muhiimsan ee la sheego ee warba aan ka maqnayn waa war islaama dawlad islaama wadan muslima qadiyad islaama waxaas baa warka koobaad mararka qaarkood warka dhani wuxuu noqonayaa warar islaama una meel kale laga sheekeynayo dunida wax la mida wadanada muslimka ka dhaca Ameerika Laatiin bay ka dhacaan wadanada Aasiyada fog bay ka dhacaan Aasiyada dhow bay ka dhacaan Afrika ka dhacaan lama duldhigayo halkana la duldhigaya limaada yakhaafuna min al-islam islaamka maxay uga cabsoonayaan waxa orana waxa uga cabsoonayaan afar arimood daraadid koow waxa uga cabsoonayaan lianna al-islam waa diin xaq ah waa diin aan jabin lama jabin karo
arrintaa waxaa sheegay labadii wadaad ee aqoon-yahanka ahaa ee reer galbeed ee weliba maraykanka ahaa Huntington iyo Fukuyama sheegay waxay yiraahdeen dunida kaleeto oo dhan xadaaradda reer galbeedka way aqbali karaan laakiin meesha aan aqbalayn inay nidaamka Occidentalka qaadato waa dunida muslimka maxaynan u aqbalayn markii la baarina waxay ogaadeen waa islaamka waxay aaminsan yihiin inay diin xaq haystaan iyo kaaba haysta miciyaarkii marka miciyaar kale ma rabaan waa koow arinta labaad waxay og yihiin reer galbeedku inuu islaamku karti u leeyahay inuu sameeyo civilization xadaarad inuu sameeyo karti inuu leeyahay hadduu fursad helo waliba si degdeg inuu sameeyo mufakkirka islaamiga ah ee Imaaduddin Khaliil la yiraahdo ee dalka Ciraaq u dhashay qaxootiga ku imika Urdun boqortooyada Urdun jaamacadda Amman ka dhiga wuxuu qoray kitaabkiisa fi suquud al-hadari xadaaradda markaan ka dhacnay wuxuu yiri islaamku wuxuu u baahan yahay min 20 ilaa 25 sano inuu fursad helo hadduu helo wuxuu kicinayaa xadaarad islaamiya oo shaamikha marka laga dhaqaaqo aayaadka quraanka iyo xadiisaanta rasuulka iyo mowqica muslimiintu ay yaalaan ay dunida ka yaalaan marka inta la isku daro wuxuu sameyn karaa xadaarad taana way ka cabsoonayaan xadaarad badisha aan bal baratanta ma aaminsano waxa la yiraahdo raggaasi at-tadaafuc in la baratamo at-tanaafus waxay aaminsan al-ilghaa in laga takhaluso qofka kale marka way ka takhalusayaan islaamka arinta saddexaad maxay uga cabsoonayaan islaamka waa raggu barnaamijyadii ay dajiyeen uu fashilmay maxaa fashiliyay islaamka fashiliyay waxay dajiyeen barnaamij ina qoyska la baabi'iyo waa lagu najaxay shiinaha in laga baabi'iyo meel dhawata shiinuhu qaraar buu qaatay waxa loo baarlamaanka la mariyay xisbiga shiinaha xukuma waxay yiraahdeen qoyska hanu gurmano 7 cisha ka soo wareegtay maalintii saalahayn qoyska hanu gurmano maxaa yeelay qoyskiiba halis ku jira Japan qoyskiisii halis baa la geliyay Europe qoys way ka tageen buug baa la qoray leedo mawtul aa'ila qoyskii uu dhintay 2020 marka la gaaro Europe wax isguursanaya ma jiro way qoran tahay waa la isla nool yahay sida waaratay uu la nool yahay awrku hasha waxay noqonayaan kal kilaab bay noqonayaan ay bay noqonayaan kal qidat bisado waa la isfulfuuli dariiqada bas yaad ka heshaa hebel baan ka helaa way iska raacaysaa adna yaad ka heshaa heblaayo way iska raacaysaa baritoolana waa la kala tagayaa hebel iyo hebel kala raacaya waxa la qoys oo muqaddasa oo tilka xuduudullaahi waa la baabiinaya meesha lagu guulaysan waayo waa islaamka dhexdiisa saddex wadan baa lagu dabaqay in la yiraahdo xeerka qoyska baabi'iya ee islaamiga waxba waa ka socon waayeen wadanadii laga baa Turkiya lagu qadaray way ka socon waayeen Tunis baa lagu xigsiiyay way ka socon waayeen Soomaaliya saddexaysaahid way ka socon weeyday waxaas oo dhan way socon waayeen waxa lagu laamay shariicada islaamka runta ah markaasi waxa la yiri islaamkan baaba waxa inuu hor joogay isaga han ka takhalusan lidalika yakhaafuna min al-islam sida daraadeed bay islaamka uga cabsoonayaan walaalayaal haddaba waxaanu imanaynaa mustaqbalka dhow iyo ka dheerba iyaale walaalayaal al-mustaqbalu liman su'aashaba hatala علماء لهذا علماء في تيولوجيا الافكار الفرنسيسكا ام علماء الدراسات المستقبليه كور كان مستقبل كما دحي كرا علماء لهذا waxay leeyihiin saddexda nidaam ee adduunka maanta ka jiray amba ka soo jiray way wada fashilmeen mana sii socon karaan nidaamka koowaad ee fashilmay waa maxay waa nidaamkii diiniga ahaa ee dadka qasbayay ee tiyuqraatiga ahaa ee Faatigaga raacay ee lagu xidhay magaalada Roma qayb yar oo kamid ah Faatigaga dhahdo nidaamka labaad waa maxay waa nidaamkii shuyuuciyada ee dhacay qaarkiina wali la sii haysto Kuuba iyo kasii jira shiinuna uu kolba ka sii baxayo Kuubana Fidel Castro misuuysay wixii ka dambeeya iyadoo way ka socon doontaa waa nidaamkaasi isaguna uu socday uu baabacay nidaamka saddexaad waa maxay waa nidaamka maanta dunida lagu qasbayo ee ragga maal qabeenadii ay sanka kaga tolayaan ee la yiraahdo ar-ra'samaliya war-ra'samaliya al-jadida kapitalismiga cusub ee niyuuga cusub iyo kii horeba nidaamka systemka cusub ee kapitalismiga yiraahdo kaasina waxa loo yahay inay u dhamaatay oo isjadiidin kareen isma cusboonaysiin kareen yiraahdeen dadka oo dhani way diidan yihiin waxay arkayaan xoolihii ay ummadu lahayd oo 2 nin iyo 5 nin kor ugu kacaysa oo u tagaysa oo ummadii hoosana ay gaajo dhimayso nidaamkaasi dadka wuxuu u keenayaa yuwassi'u al-faqra bara gaajadu badiya
wuxuuna qofka xoolaha lana xooluhu u sii badiyaa markaabay weliba ka sii kacdaa ay akhiiran dad yar u tagtaa xoolaha ummaddu waxayna keentaa revolution iyo tawrado marka waxaa looga yahay isaguna inuu dhammaan doono waxay yidhaahdeen ufuqu waa maxay meesha ugu dambaysa lama arkayo system bini aadamku uu samayn karo oo soo socda shirarka jimciyadda quruumaha ka dhaxaysoo dhanna arrintaa fashilaadeeday sheegtay idan ufuqa maxaa yaalla ufuqa waxaa yaalla islaamkaa yaalla islaamkaa badiil nin baa ururiyey muslimiinta faransiiska wuxuu ururiyey 6 bilood ka hor wuxuu ka yidhi annaku waxaan rabnaa inaad samaysiin muslim faransiis ah ma rabno muslim tunisia algeriana jibuutiana ma rabno halkan haddaad joogtiin waa inaad noqotiin muslim ala faransiis ah si faransiis ah waa inaad u socotaan okay nin baa ku yidhi war dowladda dhan ee faransiiska xooga intaa leeg leh ma waxay ka cabsoonaysaa gabadhii horta xijaaban su'aasha weydii gabadhii oo xijaaban oo ardayad ah xooga intaa leeg oo buisaanska saddexaad ee caalamka ah ma waxay ka cabsoonaysaa inan yar oo maro sidata oo xijaaban wuxuu yidhi arrintu ma aha maro arrintu waxa weeyaan buu yidhi islaam soo socda run ahaanna uu imanayaa islaamku annaku mid un baan goosannay buu yidhi inaan islaamka waqtigiisa dib u dhigno laakiin uu iman doonaa ma 20 sano ma 30 sano ma uu iman doonaa buu yidhi maalin un buu imanay nin kale oo faransiisa wuxuu yidhi waxaa la isweydiinaya ma aha islaamku ma adduunka islaamku xukumi yurub muu xukumi taan ka cabsoonayna waa taa buu yidhi annaka ma aha inuu ninka muslimiinta xukumi doono yurub muu xukumi su'aashu waa taa buu yidhi yurub muu xukumi doonaa su'aashu waa taas buu sheekhaasi yuu isweydiiyey idan waxa weeyaan walaalayaal almustaqbalu liman laba aayadood oo qur'aan ah waxa ay noo sheegeen mustaqbalka islaamka leh aayado badan mooyaan saddex xadiisna xadiisaan fara badanna waxay noo sheegeen mustaqbalka islaamka leh aayadaha qur'aanka waxaa ka mid ah aayadda suuratu nuur ilaahay wuxuu yidhi wacada allaahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaat eeg waa wacda waa ballan waa yabooh waxa yaboohaya waa allah waa khaaliqa alardi waاsamaa wuxuu yaboohay uu ballan qaaday ilaahay iyo u ballan qaaday kuwa iimaanka laga helay marka iimaankii u mandadoonayna mufti aladiina aamanuu minkum ee ininka iniga mida ee wacamilu الصaalixaati wanaagna samaynaya muxuu ilaahay u ballan qaaday saddex arrimood buu ballan qaaday layastakhlifannahum fi اlardi buu ilaahay yidhi dhulka dhan ayaanu dhiibi inta haddii laga helo labadaa iimaan haddii laga helo iyo camal wanaagsan dhulka ayaan u dhiibi aakhiro ka hor layastakhlifannahum fi اlardi buu ilahay yidhi kama istakhlafa aladiina min qablihim walayumakkinanna wuxuuna u xasilini diintoodu inay dhulka xakunto tii uu isagu raalli ka noqday taana adduunka inay maamusho ayuu ilaahay makinini walayubadilannahum buu ilahay yidhi waa tii saddexaad wuxuuna ugu bedili cabsida haysa maanta min bacdi khawfihim cabsidana amnan ammaan buu ugu bedeli cabsi baa jirta waqtigii rasuulkana way jirtay qurbadii koobaad waqtiga maantana way jirtaa cabsidu waa naka isweydiinanay iyaa soomaaliya ku xiga su'aashu waa taa man bacda soomaal intaa way martay marka khawfka amnan baa ku xiga marka wuxuu yidhi si ay waxaana ay u sii jirto hal shardi un baan iga doonayaa yacbuduunanii walaa yushrikuuna bi shay'a aniga un bay caabudayaan shariigna uma yeelayaan aniga macayga qof kaloo ilaahay aan ahayn shay kale waa tukuubataasi aayaddaasi maxay inoo sheegtay caalamka iyaa xukumi doona iyadaa inoo sheegtay aayadda labaad ilaahay subxaanahu suuratu saafaat wuxuu yidhi walaqad sabaqat kalimatuna licibaadina almursaliin ilaahay baa sidaa yidhi walaqad sabaqat ma aha imika kalimatuna cinda allawxi almaxfuud baa lagu qoray intii ciryo dhul la abuurin bini aadan la abuurin muuse la soo dirin ay fircawn isku dhicin la soo dirin ibraahim ay namruud isku dhicin la soo dirin muxamed sala allahu calayhi wasalam oo abijahl ayna isku dhicin qablaha walaqad sabaqat kalimatuna licibaadina almursaliin addoommaha iyaga aan soo dirnay kelmaddayadaa u hormartay buu yidhi maxay ugu hormartay innahum lahum lmansuuruun inay yihiin kuwa loo gargaarayo ee adkaanaya dagaalka wa inna jundana kuwa risaaladda iyada sidana lahum alghaalibuun iyakaa lahaanaya adkaashaha dambe iyakaa caaqibada dambe yeelanaya sidaa buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala waa suuratu saafaat nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiis uu warinayo imaam axmed
oo imaamka weyne albani ee muxadiska casriguna uu silsiladiisa fi alaxaadiis saxiixa uu ku dhigay inay tahay xadiis riwaayad saxiixa wuxuu ka warramay taariikhda iman doonta waa min mucjizaati الnabiy nabigu wuxuu yidhi marka uu isagoo ummadiisa u dhex fadhiyo la hadlayaa takuunu الnubuwatu fiikum maa shaaa allahu an takuun saabuu rasuulku yidhi nebinimo dhexdiina way jiri way ahaani intuu ilaahay ugu talagalay macnaha anu waan inila joogi intuu ilaahay ugu talagalay summa kadibna isagu ilan dhimane innaka mayitun wa innahum mayituun buu ilaahay marka uu geeridu u imato halkii ilaahay u kacana summa kadib buu rasuulku yidhi takuunu waxay noqoni maamulku khilaafatan kuwa nebinimada dhaxla khilaafay noqon calaa minhaaji الnubuwa oo dariiqii nebiga ku socota khilaafo raashida oo dariiqii nebiga ku socota fatakuun iyadna way jiri maa shaa allah intuu ilaahay qadaray an takuun inay jirto summa yarfacuhaa allah ilaahay baa kor u qaadi tiina idaa shaaa an yarfacahaa markuu doono inuu qaado iyadna way dhammaanin iyadna waa soo aragnay eeg waa taariikh isagu uu dhintay ma ogo laakiin ilaahay baa u sii sheegay waa mucjizana way dhacday sidii bay u dhacday abubakar baa yimiday cumar baa ku xigay cusmaan baa yimiday cali baa ku xigay sidaa bay calaa minhaaji nubuwa u ahayd rasuulku wuxuu yidhi summa kadibna takuunu waxaa imani mulkan boqortooya iman khilaafadii way baabi'i mulkan baa iman caaddan baa imani boqortooyo la isku qaniino oo wiraafi oo la kala daba dhaxlo iyaa iman oo adag iyadna way jiri intuu ilaahay ugu talagalay markaabuu ilaahay markuu doono iyuu iyadna kor u qaadi way baabi'i way dhammaatay iyadna khilaafa alamawiya khilaafa alcabaasiya khilaafa alfaatimiya khilaafa alcusmaaniya ilaa ay ka dhacaysa eeg waa siduu rasuulku u dhigo summa kadib buu yidhi sala allahu calayh wasalam takuunu waxaa iman doona mulkan baa iman boqortooyo kale jabriyatan oo dictateera oo xoog-xooga iman doonta oo dadka afka qabata iyaduna fatakuunu waxay ahaani maa shaa allah intuu ilaahay ugu talagalay ahaani iyadna way jiri an takuun summa yarfacuhaa ilaahay baa ina qaadi marka uu doonuu qaadi maxaa haddana iman ma halkaa ku dhammaani halkaa waan ognahay de ragga afka isqabanaya kama sheekeen summa kadibna takuunu waxaa imani buu uhi rasuulku khilaafatan waa tataan sugayno summa kadibna takuunu waxaa ahaani khilaafatan khilaafaa noqoni calaa minhaaji الnubuwa sidii nebiga u socota calayhi الsalaatu wasalaam marka iyadii waan sugaynaa gaalkuna tuu ka cabsoonaya waa taa ta soo socotee la sugaya waa taa waa khilaafatan calaa manhaji الnubuwa waa cumar oo soo laama cumar binu khadaab soo ma garanaysiin isagoo soo lameen cumar binu khadaab radia allaahu canhu ayuu u soo diray wiilkii kisra la odhanaya fursi xakumayey wuxuu yidhi waar ninkan adduunkii kaga qarqarsiiyey bal soo eg oo war iga keen markaasi waa boqor waxaa la idhaahdaa aqalkiisa waxaa ilaalinayay 300 oo nin boqorka kisra ninka loonayay markuu yimid rasuulu kisra magaaladii madiina iska soo dhex galay waxa uu yidhi waxaan doonayaa aqalkii madaxweynihiina khilaafatu lmuslimiin waxay dhahan ma khilaafadaad khaliifkaa doonaysaa meel halkaasuu galaa baa la sheegi dhahda ma garanaya dadku maaha nin la doondoonaba waa nin miskiinka u yimaado iska miskiina cumarku halkaa baa lagu sheegaya uu soo socday aqalkiibuu hor yimido gurigiibuu fajacay guri caadi oo iska dadka guryaha u eg uu galay wuxuu dhahay madaxweynihiinni waxaa la yidhi war maanta haguu tagay horta waa la isweydiiyey may garanayaanba markaa baa yidhi qayluulu uu lasees tagay qayluulo waa duhur dabadiyo uu qayluulo tagay lasees oo haguu tagay geed halkaas uu seexdaa markuu laseeska doonayo uu soo socday wuxuu soo socdaba wuxuu yimiday cumaroo kabihiisii barkaday kabihiisii daciskii iska barkaday oo iska hurdo si fiican biduuni qalaq bilaa murugo jalaq yidhi uu dul joogsaday wuxuu yidhi yaa cumar nin buu yidhi iska seexo cadilta waa cadaalad fashay buu yidhi faaminta way ku nabadgeliyeen fanimta waa iska seexatay buu khalaas markaad cadaalad samaysay iyaguna way ku nabadgeliyeen markay ku nabadgeliyeenna waa iska seexatay jalaq baa iska tiri markaa taas baa inoo soo socotay insha allahu taala taa bay naga celinaya raggu ma garteen arrinta labaad xadiiska labaad nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina haada addiin luqad adag buu ku sheegayaa ina haada addiin
سيبلغ ما بلغ الليل والنهار دينتن وحي قاري ماشوها بين قاري أي دراري قاري ويقاري markuu sida leeyahay isagu rasuulku ugu jooga madiinu joogaayo cabsoonaya laga adeegyahay dadkii ba fajacsan diintani habeen iyo dharaari meeshay gaadhay oo dhan iyay gaari way gaari wuxuu rasuulku amba ka kaafirki iraali ha ka noqdo amba ka mu'minki iraali ha ka noqdo amba hadiido way gaari wuxuu rasuulku aqal wal oo dagax ka samaysan amba loox ka samaysanna way gali amba caws ka samaysanna way gali diintan baa gali way dhex galay dhex fadhiisan muslim baa loogu tagay halka baa loogu tagay muslim waxa cajiiba adceedu magaalada ayna ka dhicin magaalada waxa jirta adceedu ayna ka dhicino si u socoto oo ay soo noqoto adoo iska arkaya ma balaga al-layl wa an-nahar norvesh bay ku taala waxa muslim baa masaajid kule way gaadh diinteek ma balaga al-layl nabigu marka halka ma garanayso ilaahay oo sheegaya way gaadhay norvesh waa meesha adceedu ayna ka dhicinba waad arkaysaa adceedii way soo noqonaysaa waxaana 2 sano imaamka ahaa sheekh reer Djibouti oo muslim oo reer Djibouti ah ayaa halka imaamka ahaa oo tujiyo hospitalka joogta oo maaratay madaariskiina Djibouti ka baxay waa nicmad ilaahay subhanahu wa ta'ala ma balagha al-layl wan-nahar waxa uu leeyahay ilaahay rasuulku sallallahu alayhi wasallam guri kastina way gali ficlan waxa cajiiba waxa weeyaan maanta kitaabka adduunka ugu qaalisan wuxuu noqday kitaabka quraanka oo ugu qaalisan yahay ficlan kitaabka loogu gadis badan yahay ee loogu furis badan yahay waa afkeena diiniga afka gaaladana loogu iibsi badan yahay waa kitaabka quraanka awey kitaabka marka maktabada la dhigo markaaba dhamaanaya waa kitaabka quraanka iyaka nin shaacira gabiyo carab wuxuu yiri ilaahay haduu doono arin wanaagsan inuu fidiyo xaasidiintiisu badiyaa markaabay ka sheekayaan markaaba la jeclaada islaamka xaasilkiisa batay dadkii la jeclaysiiyay alxamdulillah rabbil alamin marka taasina waa arinta labaad ee mustaqbalka inuu islaamku leeyahay natusa walaalayaal waxaan oranaynaa arinta mustaqbalka islaamka ku tusaysay mufakkiriinta adduunka oo dhan way qoreen kitaabu qoray ninka Gaarudi wuxuu u bixiyay promesse de l'islam wu'ud al-islam mustaqbal al-islam mubashirat al-islam laba سيد قطب شيخنا اللي كي كهر بو شيغي المستقبل لهذا الدين مستقبل كأدونك دينة إسلام كالي صدح نيكا إيميكا أن شيغي مراد هوفمان وحو قرأ كتابه بحيه الإسلام يسكن في القرن 21 قرن يكوية اللباطنات إسلام كأيا إسكالي أفر تضوبئي اللحدا مفكر أو عالمية إيايري إسلام كو قرن يكوية اللباطنات ما صورتا غليسو الا وحو نقونيا دين مؤثره دين ادونك راديسا او ايتال بدن انتاس كدي walaalyaal ما دوري انا دوركيغو محو نقونيا وا سؤاشا ما كبخينا وا جوابتي انيغا دوركيغو محو نقونيا اديغا دوركeen waxa weeyaan inaan sidan u fikirno ana ka dawri mid inaan sheekayno inaan isku xadiisno inaan khudbadayno inaan muhaadarayno inaan kutub dhageysano in aan oyno in aan murugoono in aan maaratay cabsoono waxaas oo dhan kama hadlaya maanta waxaan ka hadlayaa ma dawri ani dawrkeygu muxuu yahay aniga adiga iyada isaga intaba dawrku muxuu yahay kow dawrka muslimka maanta waxa loo baahan yahay in aan ku xorowno saqaafatul ya'si saqaafada murugada maaragta saqaafada jabka saqaafada kultiirka naga dhacay la dhahdo muslimku waxba ma tarayo waa been gaalada naga dhacinaysa al-ya'su nadahu wara'ana halka damban dhigayna nahnu ummatun la nay'as annaku waxaan nahay ummad aanan jabin nabi muhammad baana barayna alayhi salatu wasalaam hatta 'inda al-hazima marka uu gaalku naga adkaado ma jabno qazwatu maaragta lagu furayay Hunayn at-Taif markuu nabigu furayay keligii baa haray dusha laga soo ay wax uuna waligi arag uunan maqal waa la yaacay gaal iyo wax maartay saxaabadii kuwii gadaalka islaamay kuwii horeba way baxsadeen nabiga haray keligii waxa la jooga Abu Bakar iyo Umar iyo Usman iyo Abbas ibn Abd al-Muttalib oo baqasha rasuulka hogaaminaya iyo jooga faqat wax kale ma joogan
nebigu wuxuu yidhi ana nabiyu laa kadib anugu waxaan ahay buuhi nebi moxamed beenna ma sheego ma jabo ma ordo dib uma laamo ana bnu cabdilmuطalib yaa cabbaas cabbaasow dhawaaq buuhi ayna ahlu lbaqara dadkii suuratu lbaqara aaway ayna ahlu aali cimraan dadkii suuratu aali cimraan aaway ayna ahlu badrin reer beder aaway igu yeedh buuhi yaka-un alkutlatu alxarija ragga adag ee marka halista ah shafka u dhiga baatilka ee yidhaahda laa baatila bacda alyowm raggii iigu yeedh buuhi kuwii baa loo yeedhay nebigay ku soo laamin calayhi salaatu wasalaam markaa nebigu xataa fii haadihi laxda ma jabo ma cabsado nin baa u yimid rasuulka isagoo dagaal ka soo noqday oo meel yar iska seexday oo seeftiisiina saartay geed dushii markaabuu seeftii soo qaaday ninkii gaalkii wuxuu yidhi maanta nebi moxamed waad heshay keligii nina lama joogo wixii ilaalinay lama joogaan markaabuu ka yidhi yaa muxamed man yamnacunii canka alyawma maanta adiga iyaa iga kaa celinaya nebigu markuu midig eeguu bidix eeguu kor eego waxba ma arkaya dee laakiin ma quusto quwad buu cirka ku og yahay wuxuu ka yidhi allah bas allah un buuhi ilaahay baa iga kaa celinaya ninkii uu qarqaray seeftii baa ka dhacday khalaas kelmaddaa ka riday baa allah dhulka ku dhacday nebigaa seeftii qaatay wuxuu yidhi man yamnacunii minka al'aan adigana iyaa iga kaa celinaya iminka muxuu yidhi waa gaalkii laa axada buuhi qofna isaguu ilaahay ma arkay moo tahay laa axada buuhi markaa buu kayidhi orod ka soco iska socuudi xumatiyadii iijaabi weyn rasuulku wuxuu sugayaa inuu beri islaamo iska socuudi iimaanka ilahay hakusi iska soco uu socday markaa ma quusto dagaalkii uxud baa dhacay muslimkaa la jebiyey liawal mara waa la jebiyey shalayna way adkaadeen markaabaa ma aha jab waa jab khatiir ah waxaa la yidhi nebi moxamed baa dhintay saxaabadii baa fajacday qarag baa warannadii iyo seefihii daadiyey maxamed baa dhintay markay maqleen sala allahu calayhi wasalam anas binu maalik baa soo maray maadaa saanicuuna antum maxaad samaynaysiin buu ka yidhi waxay yidhaahdeen nebi moxamed baa dhintay markaa buu yidhi wuxuu u dhinta dee muutuu calaa maa maata calayh wuxuu u dhintaa hadduu dhintay oo seefta qaata uu dhintay baa layidhi nebiga hog baa lagu riday bacdu riwaayaat waxay leedahay lugna hoggay ku dhacday lugna kor bay taallaa hog bay ku jirtaa markaa buu rasuulku yidhi ayaantaasi gabadh baa iga difaacaysay midig iyo bidix ummu cammaara midig baan u jeestay waan arkay bidix baan u jeestay waan arkay hortayda waan arkay dabadee ilaa uu nebigu duceeyey uu yidhi allaahumma ilaahu u naxariiso ummu cammaara markaabay tidhi rasuulka ilaahow ducada iga daa mid kalaan ku weydiistay waxaad tidhaahdaa ilaahow macayga jannada ka dhig iska daawatru naxariisado ilaahow macayga jannada ka dhig taasaan u dagaalamayaa markaa buu ugu duceeyey calayhi salaatu wasalaam idan waxa weeyaan ayaantaa marka sidaa ay dhacday nebiga markii dambayto wuxuu la orday in yar saxaabadii 70 baa dhimatay 70 baa la dhaawacay wax badan baa meesha ku dhacay nebigii baa dhaawacan waxay koreen buur yar buurta iyakoo dulfa fadhiya ayuu rasuulka sallallahu murugadaa la nacaya in la jababa lama jabo muslimku ma jabo muslimku ciraaq baa la qabsaday ma jabo uu soo taagan yahay muslimku waa inuu soo tagnaado ma cabsado ma argagaxo waxaa dhacay arrin khatiir ah rasuulka waxa u yimid abu sufyaan waa gaal marka abu sufyaan wuxuu leeyahay inuu jabiyo muslimiintii soo ciidan ahaan ma jabin qalbigana ka jabi buu leeyahay wuxuu yidhi ayna muxamed wuxuu yidhi rasuulku ha u jawaabina ha farxee inaad dhintuu moodayahay ayna abu bakar buu yidhi rag buu doonayaa ha u jawaabina buu yidhi ayna cumar buu yidhi ha u jawaabina buu rasuulku yidhi ayna cusmaan ha u jawaabina buu yidhi ayna cali ha u jawaabina buu yidhi markuu intaa yidhi loo jawaabi waayey iyuu yidhi alxarbu sijaal dagaalku maanta waa barbardhac lama kala adko beder baad badiseen annakuna uxud baan badinay rasuulku calayhi salatu wasalaam markaa ma aamusin intii hore aamusu lama ajiibuuhu buu yidhi dagaalka uu doonayu gartay inuu qalbiga ka dilo dadka siday gaaladu maanta wadaan telefishoonka markay kuu soo geliyaan hubkooga iyo qarqabkooga iyo argagaxooga iyo waxay sitaan iyo markay u socdaan iyo generaaladu say isu qalluucinayaan maaragtay uun baan jabnaa waxaa waa khuraafaad waa wax lagugu jabinayo socodka raacinkana inaa cabsataa labaad adiguna saa u soco ka cabso rasuulka calayhi salaatu wasalaam abu dujaana waad maqasheen dagaalkii uxud marka uu dhacay seefta intuu qaatay buu ku xaragooday rasuulka hortiisa u xaragooday markaa buu rasuulku yidhi tilka mishyatun
وصعد إلهي نعو إلا في هذا الموقع مركا دقال لغو جرو وإنها ما إلا جبو وإلا حرق وضا مركز مركا وحور إلهي ونعا إن لغو قوق مساكين تي دريقه لكن مركا رجل يسهيو وإن سال الله صعود أو لتصو أود أن لنا نبي صلى الله عليه وسلم وحوري أجيبوه وجوابه عمر وماشاني اسكا جبانو سيدا ما تقاركيين المسلك وجوابه هيو هوستا كده هلايا BBC دي محيتري إنا لله سبحان الله ساس ورنا سانا أسوا عمر بايلي ماذا نجيب يا رسول الله ورنبو شريا نكو كلمات كان معها ورنده ماذا نجيب محاكو جوابنا نبي يقول روحا كتر هذا لا سجال بربدع مجرو قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة كوي إنك إني قد انتي عذابتي كجران أبو جهلي أبو لهبي جبابير تاسي إلهي بقراك وسيشاقين وعذابته قرأيو عذابتها لو قرأي قتلانا أنك كوي إنك قد انتينا في الجنة جنة دي كجران ما يسكمت بها ما يسكمت لا يستوون مصر ميان أصحاب الجنة وأصحاب النار أصحاب الجنة هم الفائزون إلهي باري سبحانه وتعالى هذا وحوري لا هبل لكم ولنا هبل بوري أنكم هبل بان هيسنا إله بان لنا هي أسكار كينو أو سيدنو إنكم بلا هبل باتهين ما تمرك قالوا لك شكينا واحد مسلمين وحسنوا جلسة وبلا ديمقراطي ووحنا وضبطوا أنكم ديمقراطي سيستم نظام مركبنا والله ورنتون أنكم بلا سيستم بالله إياكم سيستم بله أنك عمرك يقول حجارة سيدتن وحالنا سيستم مارة سانتير ودين عفماتك إياكونا أفرتني كل إنتاني كنت درقي الله بكتب حجارة والله ورنو كتب درقي الله سامرنا سا والله بنجيب السيد ما مركا يسقي ساب وليه لا هبل لكم ولنا هبل بوليه سبحان الله نبي يقول أجيبوه وجوابه بين لها محارو جوابنا عمري وهو رسولك يقول واحد كتر هدين الله مولانا ولا مولى لكم أنك إله با أريد هذا اللوري إنكنا يا إني وري أريتنا أنك إله با لنا الله ولي الذين آمنوا إلهي با مؤمنين تأريد هذا كتليا إلهي با هيا سبحانه وتعالى مركا أنك الله با لنا مركا يسود عدعين أي إسكا السعودين قال لي المسلمين تين مدينة كوسي السعودان أو مسلمين تي أي آدوا على عليان ومحانو جبني وإن ندبوا نقنو أو لا تشهدوا رسولك والله ما ينابا أو إلا أو يكون رسول الله من الله تشنيه أو ماشي الله سكوت تشنيه أيو إلهي جولي صدري آيات قرآن استجي آيات القرآن كوا مهم إلهي وحكيري ولا تهنوا ورهجبنا هجبنا إهانها الدريمنا نفتينها الدليلنا وأنا لقعت كذا هؤلاء إلهي بعده ولا تحزنوا هنمرقوننا با هأمرقون رجيد أنت جنة قليان هأمرقون رجيد داوعي ركب رجري صحابة قعموها يقوناين أنا قبركي با جنة كجرت بركي سوى دونك جوجا يقول أنا قبركي يا با جنة كجرت با ويسيس عطي رك خطر ويا ولا تحزنوا معايا لي وأنتم الأعلون بو رسول إلهي إني كسر يا ما إنك قال هذا كسرية لكن إن كنتم مؤمنين هذا صدق هذا دباتة إني قاعدة يكبر دباتة قاعدة أيامها أنا كذا كده حوضنا إلهي بعد سبحانه وتعالى سداس هذا على صدق شيء والنبي جاي الصحابة يأسجي يمرقدي كباب يصير أرنت الله بعد ومحي إيجابي ومسلكه مركو كحروبه يأسجا الدور كانوا وإن النقطة المسلم الإيجابي مسلم بوزيتيف أن عبسنين هرء الصعداء salaadiisa hore ugu socda soonkiisa hore ugu socda quraankiisa hore ugu socda diintiisa hore ugu socda objectiviyadiisa hore ugu socda aan dib u soo laamin iijaabi ah qof ma aha salbi ah oo leh maxaan sameeyaa ma aha su'aasha waxa sameeyay waa lagu sheegay sameeyo خلاص gudagal taaba la rabaa ilaahay wuxuu yiri rag buu amaanay waa inaan ku dayano anbiyada wadkur ibadana ibrahima وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار بو إلهي نبي الله وحد الشيكتا مسلمين تدعو حسطا نبي إبراهيم يا نبي إسحاق يا نبي يعقوب محيا هايين داد أركتله أو وحنا أركا وحنا قرطا مركا وإنا وحقبنو إنا وحقبنو إنا قرآن حفظنو إنا دين برنو إنا الحديث برنو إنا مسلمين تا دباتدو سانو فديد اللهين أنك قيب قلنو إنان مسلمين تا وحلقبنو إنان برندتك سيم وحسم يسلهايين كل ذلك بأنه مسلم إيجابي إنان نقضو صدح أريد صدح هذا ودي رسولك صلى الله عليه وسلم وحو إنه شاقي قفك مؤمنك
قوي إنه كخير بديه هاي قفك مؤمنك ضعيفك أريد صدحات ومحي المسلم الواعي إن النقض مسلم سوجيدا ماها مسلم هردا ماها مسلم غبئة وحوري عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنا لست بالخب أنا ما يهبوني ضدك كدعاء إيش طارة ضدك الدقاء ما يهبوني لكن بحوري ولا الخب يخدعني بوري كضدك الدعاء يمدعي كريبوري مركوين هالك قاعد إن لقوا الدقاء ماها إن لقوا صور نحمر ماها ضدك إن أسكارتي وريا شغل قلبه وضايق جوسو وأروح وما فهميها والله الصعداء لا يمدع فكرة وين قرتي مركا خبها النقل لكن واقع محايا لي ما أنت واحد أكتهين الدوكا انت لك waxa ka dhacayay waxa sheena waa quraanka cabsi ilaahay baa ilaa waxay dhaadeen gaaladu la tasma'u li hada alqur'ani walghaw fihi baydadeen war quraanka ha dhageysanina ee ku dhex buuqa quraanka hadii la dhageyso qancida dadka marka caalamka waxa la rabaa hadii diinta la arko aniga inii sheegay nin generaal oo islaamaya سمحوا كل إسلام صلاة بواركي والله بوقنا ضدك لعلكم تغلبون مركاسي مسلم واعية ودينتي صبرنا شريعة دي صبرنا سنة النبي كبرنا فقه كبرنا دعوة كبرنا سيرة الرسول كبرنا علماء التاريخ برنا صحابة برنا علماء الأمة برنا وحاس أردن كذب لكود يعني وإن النقطة أريد أفراد اللوبة هي مسلم كمانتا ما أنت دور كيف محن نقول إن النقد مسلم النال أرين سيدنا فكرة معها مسلم اسكنولون مسلم ايه وحان كوري المسلم الذي يعيش لقضية ويحمل رسالة وإن النقد مسلم أرين النول أرين بان النول محاد بلوك وجوكتا إسلام كان أقرقاريا محاد النول شهي مسلمين تا وحكردقيا محاد ربطا إلي دينتا إلهي كرنقطان ربا لتكون كلمة الله هي العليا مسلم ستاسا يحمل قضية ويعيش للرسالة رسالة النور وإن النقنو وحال هذا حتى ضدك آن إسلام هين ضدك وصدح بين هذين أدوه كيباتها يزقروا وحال هذا مذي وحو النور يهي إستقى إسكو النور علوش يسو النور يهي وحو النور يهي محان حدا وحو النور يهي محان فولا صدح حيوانك وحو النور يهي محان بوبا يعيش لذاته إستقى إسكو النور وحيل هذا كاسي ومحي فهو حقير بل ودل كاس هو من وراه لا يعيش لشيء مد كلنا محونو لي هذا وحونو لي لغيره ددك كله لكن اسغا اسدلا كاسنا وجرا ددك ونو لي هبل بايغير سايل وان يلاياون او ادغنا ku jajabi oo ku soo jibrayaan hebel baa iga ii soo qaado oo soo qaadayaan oo hebel dadku uu nool yahay kaana maxalidi wa hada fashilun baladi ka saddexaad waa maxay inaan noqono aan rabno wayaan waxay dhaadaan waa ka u nool risaalad mission message hadaf objective ninka u nool ee wax doonaya inuu xaqiijiyo fi hadhihi dunya adduunka intuu joogo anigu ma rabo inaad tiraahdo maxaan u noolaada ilaahay baa inoo sheegay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ilaahay nooma soo saarin inaan isku noolaano inaan dadka u noolaano nala soo saaray oo dacwada fidino oo khayrka fidino wal takun minkum umma yad'uuna ila alkhayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar inaan risaalada ilaahay u noolaano waa ceeb weeyaan ummadaadii oo la dilayo inaad farxid ummadaadii oo la garaacayo inaad nolosha isku halaysid waa ceeb weeyaan بئس الحياة هذه تنورون معها ولا ليال وأمركي لورنجري قبرها كخير بدن إن أذكر جوتيد هذا محترين ولذلك يا صلاح الدين استدعوا كلية يا لجيري شراب الله صور لقول قصلي وقصلي وايه وحورستان وقصلي يا مانتا ما قصلي يبوري معايا لي وحان وقصلي يبوري قدس بي كريستان كي هايستان صليبيينتي مانتا قدس يهود بايزتا مارت أبناء القردة والخنازير بل أدونك إسلام كورنبا لسيقو قوصنيا يوشك أن تتداعى عليكم الأكلة كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها وحادواتي إني أمضوه يسكوكي يردان سيدا قولة عنتدى عنيسا أي حيرد يسكوكي يردان مركا لصور ديقو سيدا بالا سكوكي يردي وحالي حيرد لهم باتالك علي عنالي وانا لك ربويا مركا تاسبا مهمة إنا نقطي كمسلم كالنول أي هدف النول أرنت أشارات المسلم وإن النقطة المسلم أيوة مسلم يحس آلام أمته وآمالها مسلم دراميا دباتة أمديسة يوناق أمديسة مسلم مركا أي دباتة دعنا أحلى مركا وناق دعنا الحمد لله له
oo muslimka ay u dhacdo ma aha muslim mutafarrija spectatera oo daawanaya oo le maanta Iraq shiicadii takhallus ba qoslaya ciyaaray la muslim ihsaas le ilaahay baa yiri rasuulka yiri almu'minu lilmu'mini kalbunyan صابا ليهي مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد سيدنا قراته شيخ رشيد رضا اللوراني رحمه الله تفسير وين بو قراء المنار لدهدو وتفاسير تو خطر سن علمي حديث تفسير القرآن وهذا علم الدرايه والروايه ايوسكو كاني وحي لا وريي iyo wixii la fahmiba halka buu ku wada qoray ilaa uu ka soo gaarayay jiska 20aad buu ka dhintay marka sheekhaas rahimahullah markuu yaraa isagoo iska fadhiyo guriga hooyadii hortiisa iyo hooyadii ku soo baxday isagoo calaalaya maalin oo yara murugaysan marka bay ka tiraahdaa ma tiraahdo maad gaajoonaysaa maad haraadsan tahay ma dharkii ciida u weydiisay ciyaalkeena maaha isaga su'aashay weydiinaysay ya bunayya hal usiba muslimun fi siin birunis ma muslim baa lagu dhibay shiinaha waxay ogtahay inuu yahay nin ka fikiraya muslimiinta oo dhan marka shiinaha muslim miyaa lagu dhibay oo ay ka fikirsiinaysaa saabay ku oran jirtay hooyadii bacda an arafat waxaan ognahay walaalayaal oon ognahay maanta in aan nahanaku bila qadiyad iyo bila dareen ninka loo oran jiray imaam malik rahimahullah afarta sheekh buu ku jira caalamka islaamka madaahibtooda Allah isaga sunnaha iyo ku jira sheekhaasi markuu yaraa ayaan buu soo iibsaday music guitar buu soo iibsaday isagoo inay yar ciyaala sida ciyaalkeena qarsamayaan markuu guitarkii soo iibsaday ayuu maqsin yar la galo iska tuntay hooyadii baa aragtay way ka qaatay haddana uu soo qaatay uu tuntay hooyadii baa suuqay tagtay waxay tiri wariyaa waxay u soo iibisay khamiis fiican iyo cimaamad qurux badan way u xidhay cimaamad si fiican bay ugu xidhay markay si fiican ugu xidhay ay khamiiskiina u gelisay ay halkaana caday u gelisay siwaag iyo u geysay macallin bay u geysay masaajidka rasuulka fadhiya Madiina waxay ka tiri hada ibni kaasi waa inankaygi aniga kaga filan inuu noolaado adigana waxa aad baraysid ujradiisa ana ku keenaya علمه القرآن قرآن كبر والسنن سنتهنا سنن كرسولكنا بر دينتنا بر وما لهذا قد خلق جيتار كان بو هايسته كان لو ما أبورين بيتري كان جيتار كان لو ما أبورين وما لهذا قد خلق بيتري كان لو ما أبورين وحا الله أبوري كان إمامك إسلاتري أي أفكارته عبارسيسي ما أنت وحال هذا مذهب إمامه مالك برضه المالكية وحال رجلي مركوين هذه لا يفتى ومالك في المدينة لما جوابك ردين مالك أو دحفر ليا مقالة المدينة رضي الله عنه وقدام بيتي وحوية ولا ريال مسلم كأن ربنا الدور في عن قادك روامحي ومسلم الذي لا يلوم غيره أبدا في تقصيرهم وإنما يلوم نفسه في تقصيره ومسلم كدتك أن علالني عنانين إلهين دتكو هدي صدان نقضان سابع دعي لهي هدي علومات الدين توضى الشيغان ما أنتوا يغلى في عنان لها هدي ما يحوصي في عنه حكمان ألا أبع دعي لهي هذا يقول محلقبتها وأنت مركا الله مربو المسلم الذي يتحدث عن الآخرين نريد المسلم الذي يتحدث عن نفسه مسلم كيسقو يسكشكين يا الربا ولا يا مسلم ككلا أنا maxaa igu waajiba maada asnac maxaan qabtaa oo inuu qabto markaa maaha muslimka dadka kale ka sheekeynaya ilaahay jalla wa ala qofka iscanaanta u amaanay ee dhibaatada haysata canaanta ilaahay baa ku dhaartay la uqsimu bi yawm alqiyamah wa la uqsimu bin nafs allawama ibn abbas bayri an-nafs allati yalumu saahibaha wa nafta iscanaananaysa ee markay gaabiso maxaad u gaabisale marka ay wax qabatana sidii wanaagsaneed ma u qabatay leh tatadawar hore u soconaysa naftaasi marka taas baa la rabaa marka qofka muslimka ee maanta duruuftu ay rabto ee ummadda islaamka qurbada ka saaraya waa kaas weeyaan walaalayaal bacda hadhihi alkalima kelmadda dheer soo akhrinay aan ka soo bilownay qurbadu maxay tahay aan ku soo xigsiinay madaahirtu maxay yihiin aan ku soo xigsiinay maxaa ka dhashay aan ku soo xigsiinay kadibna aanu ka soo warannay maxaa maaragtay inbicaaska muslimiintu inay soo noqdeen ay baraarugeen maxaa islaamka looga cabsoonayaa mustaqbalka iyaale islaamka le aan ogaanay dowrkeena aan ka sheekaynay kadib kelmadda kadib waxaan leenahay annaka inteena masaajidka fadhida rag iyo haweenba su'aal baa inoo taala bas su'aashaas waxa weeye 1427 waan fasaxnay
waxay ku qoran tahay saxiifatu acmaalina way ku qoran tahay salaadeenii way ku qoran tahay soonkeenii uu ku qoran yahay zakadeenii way ku qoran tahay xajkeenii uu ku qoran yahay xajka tagay maxaa ku qoran samafalkii waalidka way ku qoran tahay xumaanteenina way ku qoran tahay subxaanallahi alcadiim goor maan arkaynaa baashaas waxaan arki doonaa maalintaan ilaahay hor tagno subxaanahu wa tacaala 1400 wixii ka horreeyay ba cumrigiisu tahay waan arkaynaa ilaahay baana inoo sheegay yawmaidin tuxadiثu akhbaaraha wararkeegay ka warrami maalin walba waa iska sheekayni maa min yawmin yanshaqu fajru ila wayunaadii ana khalqun jadiid wacalaa camalika shahiid fatazawad minii fainii ida amdaytu la acuudu abadan ila ila yowmi alqiyaama waa kaas sidaaba maaragtay ayaa jirta arrintaasi waxaan bilaabaynaa sanad cusub maantay kow tahay kow jumcaha sabtida maanta waa kow caalamulislaami kow adigana kow bay ku tahay waa inaad qaraar qaadano qaraarku waa wax adag decision baa dhalaa uu adag yahay waa inaan qaraarku noqdo an akuuna musliman jadiidan inaan noqdo muslim cusub inaan noqdo mu'min cusub inaan noqdo qof risaalad leh inaan taa qaadano inaan garta maxaan u noolaan inaan xisaabtano oon caawa iyo buuq qaadano oon xisaabtano sida bakhiilka waxay dhahaan culummadu qofka mu'minkii waqtigiisa wuxuu ula xisaabtamaa si ka daran ninka bakhiilkiisu lacagtiisa u xisaabiyo marka waqtiga aan xisaabino su'aasha aan isweydiino walaalayaal caawa ilaahay subxaanahu wa tacaala hadalka aan idhi iyo kuwa aad maqasheen kii wanaagsan kuwa raaca ilaahay naga dhiga insha allahu tacaala ilaahayna ha inoo saamaxo waxaa dunuub gallay allahumma اغfir lana wastur cuyuubana وآمن